السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد برنامج كنا مالمها الدنيا ده وستة سنين كجيمانية استوديو هنا كلنا نهاي مقالة لندن برنامج كان وحنا كسر قادنا موضوعي كله قديسنا وسامين كل بالشدة الصوماليات مالوا البيع عالم كجوجان وحنا سيدو كله كسر قادنا برنامج جدا مركز حساسية أم أرمها حساسية أي سامين كل بالشدة الصومالية ده وليبة أرمها ينوصل نهاي ويحبون تهاي أما مدن تهاي إن داودي عشان لا وذاك waxaa si toos barnaamijka ugala socotaan bogaggeena ku leenahay baraha bulshada khaasatan barnaamijka maalmaha dunida iyo weliba bogga BSTV British Somali TV labadaba waad nagala socotaan mawduuceena toddobaadkan ama barnaamijkeena caawa waxaanu kaga hadli doonaa haddii ay bidna sida qaybta hoose ee shaashada barnaamijka daawadaasho ay ka arki doonaan doorasho mise dib u noqosho arrimaha dalka Soomaaliya doorashooyinka ka soconaya gudaha wadanka Soomaaliya inta ugu badan xildhibaanadii la dhameystiray dood ayaanu ka sameyn doonaa barnaamijkaas waxaana barnaamijka nagala qayb qaadanaya sida qaybta hoose iyo weliba shaashada baad ka arki kartiin aan ku bilaabay Xuseen Barrio waxa uu ka mid yahay daawadayaasha in badan barnaamijkan ku xirnaa nagala qayb qaata falanqaynta barnaamijka isla markaana ku nool magaalada Paris oo uu qadka si toos ugu jiro isagoo ku nool magaaladaas ee xarunta wadanka Faransiiska oo magaalada Paris waana falanqeeye arrimaha siyaasadda waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadanaya Maxamed Maki oo qadka si toos ugu jira isagoo jooga magaalada Stockholm xarunta wadanka Sweden ka shaqeeya arrimaha bulshada isla markaana ah ganacsade falanqeeya siyaasadda Maxamed iyo waliba Xuseen oo qadka si toos ugu jira haddii beedno waxaanu jecelnahay inta barnaamijka lagu guda jiro in aynu su'aalo kala gadisan oo la xiriira arrimaha siyaasadda doorashooyinka halku marayo in aynu weydiino balse intaanan martida soo dhaweyn aan sidoo kale daawadayaasha xasuusiyo qaybta hoose ee shaashada barnaamijka waxaa maraya fariimaha halkaad noogu reebi kartiin fikradihiina aragtiyadiina meel baad caalamka ka joogtiin isla markaana aynu soo qaadan doonno hadba fikirka aad nala wadaagtiin ee ku habboon barnaamijka waayahay kusoo dhawaada aan ku bilaabo Maki kusoo dhawa barnaamijka aad iyo aad baad u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay maxamed siciid saxaaf si weyn baan kuu salaamay adiga iyo barnaamijkaaga maalmaha dunida aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa kaloon salaamaya walaalkeen Xuseen oo asna jooga wadanka Faransiiska magaalada Paris waad mahadsantihiin adiga mudan Xuseen kusoo dhawo barnaamijka waa mahadsan tahay waa dhawaay maxamed adiga iyo saaxiibkii Samiga maxamed waa mahadsantihiin waan soo dhaweynaya mar kale waayahay daawadayaasha meel walba caalamka joogaan barnaamijka way la sii wadaagi karaan asxaabtooda boqolaalka gaaraya isla markaana aanu jecelnahay inta lagu guda jiro barnaamijka inay fikradoodii iyo fariimahooda ay nala wadaagaan qaybta hoose ee shaashada barnaamijka sidaad ka arki kartiin doorasho mase dib u noqosho xaalka dalka iyo arrimaha doorashooyinka aan ku bilaabo maxamed weliba maxamed Makiyow dad fara badan baa isweydiinaya suurtagal ma tahay sida dal wadanka Soomaaliya oo kale oo wajahaya caqabado kala gadisan qaasatan caqabada xagga la xiriirta amniga in lagu qabto doorasho qof iyo cod ama madaxdaynu arkaynay ha noqoto dawladda iminka waqtigeedu sii dhamaaday dawladihii ka horeeyay kuwa iman kara suurtagal ma tahay wadan sida Soomaaliya oo kale in la qabto ama la yiraahdo waynu qaban karnaa doorasho qof iyo cod iyadoo ognahay inay jirto caqabado la xiriirta xagga amniga Maxamed aad baad u mahadsan tahay walaalkay maxamed siciid saxaaf ani waxay la tahay markaad fiiriso taariikhda wadamo badan oo waxaa jira dunida soo maray dagaallo soo maray dhibaato oo waxa la yiraahdo maxaan dhahay fragile state ama dawlad hasha waxay dhahaan dawlad oo daciif ah oo runtii aan isku filayn dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaan iyo intaaba aan isku filayn waa wax jiro waxaa lasoo qaataa Afghanistan iyo wadanka Ciraaq iyo meel badan baa lasoo qaataa laakiin markii Soomaaliya la yiraahdo waxay u baahnayd maalinkii la doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumaddiisu waxa ugu muhiimsanaa ee loo siiyey mandaadka wuxuu ahaa inay dalka gaarsiiyaan doorasho hal qof iyo hal cod ah haddii laga shaqayn lahaa marka day one laga shaqayn lahaa oo waxa la yidhaahdo dadka heshiis siyaasadeed heshiis bulsho uu jiri lahaa dadka maxaan ku dhahay la yidhaahdo saamiliyada siyaasaddu ay ku heshiin lahaayeen isku meel isku jiha la aadi lahaa waxaan isleeyahay suurtagal bay noqon lahayd laakiin lama aadin jid kalaa la aaday taasina waxay keentay in aan hal tallaabo hore loo qaadin oo ah one man one vote ah waan gartay Xuseen oo soo noqonaya laakiin dawladdan kaliya ma aha dawlad walba oo timaada xagga timing ama waqtiga hadeenu ka fiirino wadan sida Soomaaliya oo kale xataa hadii madaxweyne farmaajo xilligii la doortay uu bilaabi lahaa maalintii ugu horeysay inuu yiraahdo wadanka waxaan ka hirgelinayaa doorasho qof iyo cod aan waxaan fahmay doorasho qof iyo cod qeexitaankeedu inuu yahay qof walba oo muwaadin oo Soomaaliyeed oo wadanka ku nool oo fursad u heli kara inuu codeeyo oo buuxinayo shuruudaha qofka codeynaya inuu codeyn karo taas suurtagal ma aha laakiin waxaa la sameeyaa wax la yiraahdo xeerjida baa la sameyn lahaa oo taas suurtagal ma wadankii inta ugu badan wali shabaab baa gacanta ku haysa amniga ahaan hal magaalo oo lagu qaban karo
hadda meesha leeyahay Puntland oo kale waa iska caadi laakiin Jubbaland doorasho kama dhici karto oo ogtahay labadii jubbooyinka waxaa haysta shabaab baa haysta gobolka la yiraahdo goboladan South West shabaab baa gacanta ku haya galmudug meelo badan bay haystaan Somaliland warkeeda iska dhaafayda waxa weeyaan oo de wuxuu u baahan tahay wada hadal iyo dood kale u baahan tahay isqancin bay u baahan tahay marka xagee lagu hiir shabeelle wasaasoo kale xagee lagu qabanaya marka doorashada anigu aan sugayna wuxuu ahaa marka in la galo heshiis siyaasadeed wax la isla soo dhaweeyo wax ka duwan hadda tan maxaan ku dhahay masalan in la yiraahdo 1000 qof baa codeynaysa ama 2000 qof baa xildhibaankii codeynaya laakiin laga shaqeeyo maalinkii koobaad ay xafiiska imaaday maxamed cabdullaahi farmaajo hadda u jeedid oo la leeyahay 100 qof baa codeynaysa baa 2 sano ku dhawaad baan ismari kar laanahay haddii la yiraahdo marka shaqo oo hal cod iyo hal qof ah waxay u baahan tahay 4 sano oo shaqo ah securitygeedii dhaqaalaheedii logisticii wixii dhan bay u baahan tahay marka nasiib darro Soomaali kama dhici karin sababtuna waxay ahayd jidkeediiba lamaba qaadinba waayahay aan dib ugu soo laabto xuseen oo jooga magaalada Paris ee xarunta waddanka Faransiiska xuseen waxa uu moodaa inuu maxamed leeyahay maalintii ugu horeysay ee madaxweynaha la doortay ay ahayd shaqadan in la hawl galo adigu fikirka ah in waqtiga lagu qaban karo suurtagal ma ku tahay waa maadsantahay maxamed waa soo dhaweynayaa codkayga si fiican oo maqlaysaan malayna si wanaagsan marka waxaan rabaa inaan taariikhda xuso kumana raacsanin saaxiibkay maxamed midda koowaad Soomaali doorasho ka dhici kartaa qof fiicood ahaa oo ka dhici kartaa qaabka iyo doorashada nooca ay noqonayso hadhow isku ma raaci karno laakiin waxa la rabaa inaan isku raacno Soomaali doorasho waa ka dhici kartaa qof fiicood midda labaad oo rabaa inaan sax waxa waaye markii June 2020kii Xalimirey ee baarlamaanka tagtay waxay sheegtay inay qaban karto doorasho ilaa iyo bishii 8aad 2021 oo qaadanaysa mid ugu dheer iyo mid waxay sheegtay oo inay qabanayso oo qof walba intuu yimaado oo 3 bil lagu daraa ilaa bishii May la qaban doono Febraayo ay dhacaysay doorashada madaxweynaha oo Farmaajo laakiin xilka oo ku ekaa laakiin 3 bilood iyo mid 9 bilood lagu daraa marka isku geegay haddii doorashadaas la qaadan lahaa oo Xalimirey ay sheegtay waa lagu qaban karay oo qaabkaasna waa loo sameey karay marka Farmaajo marka maalinkii marka la isku haystay labada jiho siyaasadda Soomaaliya waxay ahayd mid waxa la qaataa doorasho ayadoo lahaa doorashada qof iyo codka waxa wata Farmaajo systemkiisa midna waxay ahayd siyaasi sida hadda uu sheegay maxamed saamileyda siyaasadda ha ka heshiiyaan saamileyda siyaasadda waxa ay go'aamiso ha lagu dhaqo waddanka oo heshiis ha lagu dhaqo waddanka doorasho heshiis lagu yahay ha la sameeyo doorasho aan dagaal keenin ha la sameeyo doorasho odayaasha iyo siyaasadda ogol yihiin saamileyda ha la sameeyo laakiin doorasho dhexdhexaada lama gaari waqtigeedii sababtoo ah ninkan systemka haya wax walba gacanta ugu jiraan si marka wax la qaybsan karo waxay noqon karaan kaliya in madaxweyne maamul goboleedyada gacanta loo geliyo awoodda oo madaxweynaha la challenge gareeyo saasa horta ku timid labada choice oo leystan waxay ahayd in doorashadii qof iyo cod la qaato waxa loo diidanaa waxay ahayd inuu systemka gacanta ugu jiro midda hadda la qaatay dadbanna waxa loo qaatay waxay ahayd si saamileyda siyaasadda ay uga qayb qaataan siyaasadda Soomaaliya ee la iskuma haynin Soomaaliya ma lagu qaban karaa doorasho nooc rabta qaadano adduunka oo waxa doorasho noocyo adduunka ka jira ee waxa la isku haystay waxay ahayd doorashada aan ku heshiin karno ma qof iyo cod ah mas waxa ku heshiin karnaa doorasho dadban marka doorashada Soomaaliya lagu tijaabiyey ama markaas la rabay in oo lagu qanciyo si ay u qaadato waxay ahayd doorasho dadban oo saamileyda siyaasadda ay ogol yihiin marka taas aan rabaa inaan uga baxo qaybta dambe oo ah dadaal ma lagu baxshay Farmaajo inuu mataqaana doorasho qabto inuu mataqaana doorasho qof iyo cod qabto ha dadka dadweynaha marka fiirido qaabka mataqaana uu u soo gudbiyay oo 2018kii soo bilowday 2019kii baarlamaankii wasiirada soo maray markii 2020kii Xalimirey ay soo bandhigtay waxa loo baahan yahay doorashada in laga qabto waxay sheegtay in laba magaalo in lagu qabto maxamed wuxuu sheegay saaxiibkay in hal magaalo lagu qaban karin oo Soomaaliya kamid marka laga reebo Puntland laakiin qorshaha ay soo bandhigtay Xalimirey wuxuu ahaa in laba magaalo lagu qabto maamul goboleed kasta sida hadda loogu qabtay marka anna waxaan aaminsanahay in magaalo kasta lagu qaban lahaa haddii la dooran lahaa biometric oo ahaa lahayd qofka in far laga qaado ama qofka in il laga qaado maalin oo registration loo sameeyo kadib maalinka doorashada 5 bil kadibna inuu qofka yimaado uu codeeyo ama in laakiin Xuseen oo ka dhaxgalay Maxamed wuxuu leeyahay intaas oo idil waxa ka horeysa caqabada xagga amniga hadda amnigi hadda way jira amniga maxaa ku xisaabsanaynaa gaalkacyo waxa ku xisaabsanaynaa
amniga muqdisho waxaan ku xisaabinaynaa amniga garbaharey kismaayo amniga baraawe amniga magaalada laga hadlayo teewa magaaladee amni ka jira marka haddaa rabto inaad tiraahdo waxaan ku qabanayaa 15 magaalo oo rabo inaad doorashada ka dhacdo haddii 3 magaalo aysan ka jirin amni oo 12 magaalo lagu qabto way dhaantaa soo ma haddii baydhabo iyo waajid lagu qabto ama haddii lagu qabto maxaa la yidhahdaa afgooy oo ka tirsan koonfur galbeed soo way u xisaabsan tahay soo ma amni ahaan dowladdu way maamuli kartaa waayahay daawadahan wuxuu leeyahay aan jeclaa inaan kula wadaaga adiga iyo maxamed weliba su-aashaan aday kugu aadan tahay waddan 6 madaxweyne leh sidee doorasho qof iyo codol looga qaban karaa buu leeyahay daawade bashka ani miya si wanaagsanaa haddii 6 madaxweyne waa 6 maamul goboleed ma 6 madaxweyne oo Soomaaliya ay ka jirto waxa hadda la isku doorashada hadda barnaamijka qaybta dambe aan ka geli doonaa waxay noqon doontaa systemka federalismka ee aan qaadan doono wuxuu noqon doonaa kan federalismka oo madaxweynaha hadda ninkan 5-6 madaxweyne ay sheegan doonaan ay qaadanayaan oo awoodi noqon doonaan system centralism oo aan qaadan doonaa muqdisho laga xukumayo taas waa marka tan oo keenaysa in awood la siiyo yaa awood qaadanaya laakiin 6 madaxweyne meel kama jiraan waxa ka jira hal madaxweyne oo madaxweynaha farmaajo yahay ilaa inta madaxweyne kale ka imaanaya waaya maxamed soo dhawo waxaan umaleynaa fikir ku darsat walaalkii waxaan rabay inaan xasuusiyo aad buu mahadsan yahay feeri waxna waxa weeyaan waxa loo sheega dadka bulshada loo sheego bulshada gaar ahaan dadka la rabo in suuqa lagu sii daayo weeyaan waxna waxa weeyaan waxa dhabta ah ee ognahay ee siyaasiyiinta og yihiin ee la isla og yahay weeyaan ee hoos la karkariyay weeyaan waxa la og yahay waxa weeyaan dhabta waxa weeyaan hal maalin doorasho inay dalkan ka dhacdo laguma talagelin tii yarayd ee sababtoo ah doorashada intaan la gaarin ka hor waxaa ka horreysa doorashada dadka lala galahayo inay ogolaadaan in lala tartamo oo maxaan ku dhahay tartan ogolaadaan dhibaatada maxay Soomaaliya hadda maxay dhibaato uga socotaa muxuu buuq u socdaa muxuu waxana fawdaha u socotaa maxaa loo keenay maxaan ku dhahay 2 sano oo extension maxaa loo keenay maxaa waxaas loo sameeyaa wadanka waa inaysan doorasho ka dhicin oo la iska jooga dhaqan nagu cusub ayaa Soomaaliya 5 sano ugu dambeysay ka dhashay sida runta taasi waxay keentay marka feeri ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayre oo maxamed Cabdullaahi Farmaajo 5 sano maalinku isku dayay inuu u tartamo oo u sheegay xilka inuu hunguri iyo damac iyo ham u leeyahay siyaasadeed looma dulqaadanin ninka la yiraahdo Maxamed Roble hadda ninka hadda fadhiya meesha maalinku isku dayay in wax dalkan u fiican oo in uu ku fikiro oo san Farmaajo uusan doonaynin dagaal baa lagu qaaday iyo in maxamed xafiiskiisa la weeraro maalinkii ninka la yiraahdo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Sheekh Shariif oo dalkan soo hogaamiyay si qurux badan oo gobonnimo leh oo sharaf leh oo ciz iyo karaamo leh ugu dhiibeen calankii Soomaaliyeed maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayagana hoteelkii deganayn buu rasaasin ka galiyay doorashada ninkan walaalkay uu sheegahayo ee rab Soomaaliya ka qabato amnigii dadkiiba amnigoodii la ogolayne shacabkiiba amnigoodii la ogolayn siyaasigii tartami lahaa amnigiisa la ogolayn dalkii xisbi axsaab siyaasadeed kama jiraan waxa tartamahayo waxa dalka Soomaaliya loo baahan yahay xilligan lagu jiro wuxuu ahaa dastuurkana in la hagaajiyo dastuur la sameeyo axsaab fiican in la habeeyo wadankana heshiis siyaasadeed oo gobolada iyo dawladda dhexe ah in la wada galay ahayd kadibna xaggaas aan ka sii aadna ahayd waaya xuseen haddii la isku raaci lahaa arrintan uu ka dhawaajiyo muddo kororsiga aan u soo socda laakiin qayb ka mid uu ka dhawaajiyo maxamed maki haddiiba la isku raaci lahaa in madaxweynaha muddada 2 sano ee muddo kororsiga loo ogolaan lahaa la isku raaci lahaa dhibaataysan ka imaan lahayn waxyaabaha ulajeedada ugu weyn waxay ahayd madaxweynaha inuu leeyahay 2 sano gudahood waxaan waddanka ku gaarsiinana doorasho qof iyo cod ah ma kula tahay doorasho qof iyo cod ah 4 sano uu joogo madaxweynuhu ka hor muddo kororsiga intuu samaysan uu sameyn waayay in 2 sano lagu heli lahaa waa maasanta waxaan rabaa boontiga oo maxamed inaan raaciyo oo hadday sheekadeena ahayd su'aasheeni hore ahayd maadaama qof iyo cod aan la qaban karin su'aashaas waxaa la isweydiinaya farmaajo la weydiinaya 8 Febraayo marka haddaad doorasho qof iyo cod aan qaban karin maxaa qaban kartaa marka nimankii waxay soo qorteen 17 September heshiiskii ayagaa soo qortay ayagaa siiyey kadib sidoo sheegay kadib doorashadii lagu galay doorashadii hadda waxaa ka soo baxay xildhibaano waxaa la hayaa sida hadda wax u dhaceen asagoo farmaajo uu banaanka ka yahay marka hadduu dhahay walaalkay heshiis waa in lagu yahay heshiis waa lagu ahaa heshiiskaas wuxuu ahaa 17 September wixii ka soo baxayna hadda waa aragteen
hadduu ilaahay hal qanciyo saamiliyada siyaasadda waa la qanciyo saamiliyada siyaasadda wixii ay rabeen ay doorteen doorashada ay rabeen ay doorteen sida ay rabeen u maamuleen waliba ayagaa soo saartay oo magacaawday qofkii ay rabaan xildhibaankii ay rabaan doorashadii waa la galay waa lagu soo baxay meeshaas marka ma imaan karto maxaa loo qabo waayo doorasho qof iyo coda sababtoo ah miis laba waxaa noo saaraa inaan doorasho qof iyo coda qabsano oon tijaabino oon ku rafaadno 10 sano ha qaadato ceebteeda farmaajo aan lahaa ama inaan doorasho dadban qaadano oo mas'uuliyaddii uu ka baxo farmaajo waa ka baxay wuxuuna u dhiibay mas'uuliyaddii rooble meeshii oo kala dhacay iyo meeshii oo lagu dambeeyeyna haddeertaa soomaali waa ujeedaa ayadaan xukumaysa intaas waa midda labaad arrinta oo muddo kororsiga waxay ku timid ayadoo la joogo xerada teennada afisyooni ayaa madaxweyne farmaajo waxaa loo soo dhigay sidaa ognahay inuu kala doorto inuu iska casilo xilka madaxweynaha waraaqad uu qoro uu leeyahay ma ihi madaxweyne mana ihi mataqaanaa mana maamuli doono ciidanka waraaqad uu ku caddaynayo inuu xilka wareejiyo si cad taasuu diiday taasaa keentay marka in baarlamaanka la aado ayadoo mar walba uu maalin walba tigayo muddo isbuuca teendhada oo uu diidanaayeen axmedoobe iyo deni inay tagaan shirkaas saasaa ku timid maxaa la yidhahdaa 2 sano kudarsigii warqadda marka ayay ka timid xuseen ayagaa miiska saaray maalinkii heshiiska oo afisyooni heshiiska waxay saarneed way u soo dhiibeen qoorqoor habeen oo la soo shiray ay u soo sheegeen in farmaajo iska casilo uu keeno waraaqad uu leeyahay waraaqaddii xasan shiikh oo kale oo ah in arrimaha doorashada uu faraha ka qaaday uuna ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha waayo maxamed aan dib ugu soo laabto warqadda uu sheegayo waxaan u fahmay xuseen inuu leeyahay sidii xasan sheekh maxamuud inuu qaasatan go'aanada la gaarayo ama heshiisyada la sameynayo madaxweynaha madaxweynaha markuu dhamaado inay ahayd baan filayaa laakiin haddaan dib ugu soo laabto arrinta muddo kororsiga maxaa sabaad adigu isleedahay feeri muddo kororsiga waxaa sababay way iska caddaynayoni waxaa sababay waxa weeyaan waa xukun jacayl weeyaan wuxuu og yahay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaheenna hadda xilligu ka dhammaaday haddii doorasho la galo in uusan ku soo baxaynin buu og yahay wuxuu og yahay haddii doorasho la galo wixii hadda ka dhacay doorashada hadda dhowr magaalay ka dhacday sida magaalada gaalkacyo doorasha ka dhacday waa ogid oo baarlamaanka ahayd taageerayaashiisii iyo dadkii asagana isku afkaarta ahayeen war shamsi baa lagu qaaday hal maalin baa shamsi lagu qaaday waxay ka dhacday magaalada hiiraan bay ka dhacday magaalada beledweyne gobolka hiiraan bay ka dhacday hiirshabeelle war shamsi baa lagu qaaday waxay ka dhacday magaalada jawhar bay ka dhacday war shamsi baa lagu qaaday hal meel wuu og yahay marka waqtigiinu ka dhammaaday saas daraaddeed wuxuu rabay 2 sane hadduu ku darsan lahaa weliba xoog inuu ku darsado waxoogaa ciidamo soo urursado eritrea laga keeno ciidamo meelo kale ciidamo laga keeno inuu sida ninka la yidhahda abiy axmed dalku inuu ka dhaco dagaal ayuu rabay ninkani saas daraaddeed dagaalkaasna wuxuu ilaahay ku soo badbaadiyey nimankii la oran jiray badbaado qaran oo yidhi maya dagaal waddanka kama dhacayo saas daraaddeed buu walaalkii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaheennu hadda xilligu ka dhammaaday uu ku istaagay wey laakiin isagu wuxuu rabay xoog inuu ku darsado 2 sano oo maxaan ku dhahay huuhaa in meesha la keeno kadibna dalka inuu dhaho waxa weeyaan ciidamadii iyo xooggii iyo wax noocaas oo kale ah message noocaas u aaminsanaa marka wax soomaali loogu dariya ma ahayn filin laakiin maxamed aan kaa dhexgalay magaalooyinkan hadda sheegta sida gaalkacyo iyo beledweyne iyo jowharba waxaa uga soo baxay xildhibaano dhinaciisa taabacsan oo taageersan kulli ma wada ahayn xildhibaano ka soo horjeeda tartan kama jirin kuwaas tartan ma jirin wax la xidhaana kama hadlayna moogtahay asaga hadda wuxuu rabay in malxiis uu samaysu doonaya isaguna malxiis laakiin dee shacabka soomaalidu sida shacabka dadkan hadda etoobiya wixii ka dhaco kale ma aha hadda ninkii la abiy axmed oo kale oo farmaajo ay saaxiiba yihiin iyo afarqi labadaba oo saaxiibka ugu dhow farmaajo waxa weeyaan waa abiy afarqi adduunka intii kale uu ka soo xirxirmay walaalkii maxamed abdullaahi farmaajo adduunkii oo dhan meel uu aado ma jirto xataa markuu ku darsaday wuxuu isku dayay inuu aado waddan shirkii waddamada afrikaanka waa laga soo diiday adduunka dhan baa laga soo diiday saas daraaddeed waxa ka dhacay magaalada maxaan ku dhahaa gaalkacyo iyo magaalada beledweyne doorasho markii la dhaho doorasho furan oo xor iyo xalaal aha walaalkay waxba kuma leh shalay toolana shacabka soomaali baa u codeeyey waxaa loogu codeeyey wuxuu ahaa wuxuu ihi anigu etoobiyaan iyo gabre ayaan nacbahay buu dhahay dadkii u codeeyey ee taageere baan ku jirnay dadkii taageere ee u sameeyey maxaan ku dhahay kambeynkan ku jirnay dadkii la kulmay baan ku jirnay laakiin haddana wuxuu noqday ninkii ugu horreeyey ee nin soomaali ah oo muwaadin soomaali ah magaalada muqdisho oo ah xuduntii ummadda soomaaliyeed ka dhoofiye ee gabre ku daray buu noqday marka
waxa codayn doona waa shacabka Soomaaliyeed hadii la yiraahdo mahadsanid maxamed xuseen waxa uu moodaa fikirka maxamed inuu aad u cad yahay adiguna fikirkaagu uu cad yahay qaybtii ugu horreysay dooda daawadaashan jecla laftirkooda inaan fursado siiyo su'aalo aad u badan baa na soo gaaraya qaybta hoose shaashada barnaamijka telefoonada iyo fikradaha iyo aragtiyadaba ay noogu soo diri karaan whatsappkeena iyo weliba emailada iyo bogga facebooka oo live ka ah oo daawadaashu iminka intaad dad nagu soo biirtana waxaanu ka hadlaynaa doorasho mise dib u noqosho nidaamka doorashada ee waddanka Soomaaliya iminka xubnaha baarlamaanka lagu doortay ma doorasho mise dib baa loo noqday qaab sida adigu aragtaa fikirkaaga adigoon cidna aflagaadeen ayaad nala wadaagi kartaa ilaa 2-3 qofoodna aan daawadaasha fikradahooda aan la wadaagi doono martida barnaamijka aan dib ugu laabto markay timaado Xuseen dhinacyadan aadka maaragtay u kala gadisan oo xusay maxamed haddii tusaale ahaanba ay dhacdo in doorasho ay dhacdo ay ku soo baxaan xubnaha mucaaradka oo kale ma aaminsan tahay adigu in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu xilka ku wareejinayo si nabad ah sidii isaga loogu wareejiyay Xuseen waxaan rabaa inaan saxo horta madaxweyne farmaajo intuu meesha joogay oo lagu eedeynayo awood u isticmaalay iyo dagaal oo meel ku isticmaalay mar walba waxay ahayd sheeko riwaayad oo la sameynayay ayadoo dadka xoogagaalka marka laga soo dadka facebooka iyo dadka meelaha ku jira marka laga soo tago dadka xoogagaalka oo og wixii dhacay iyo ciddii samaysay iyo diyaaradda ciddii ka reebtay madaxweynaha iyo ciddii ku weerartay mudaharaadka iyo ciddii qalbi dhagax dhiibtay ayadoo taabuu ahayn oo si caawada haddii la rabo in looga hadlo hebel iyo qof walba waa la ogyahay wixii dhacay dadka xoogagaalka sheekadaasna hadda campaign in lagu galo marka waxaa leedahay dhammaan arrimahaas aad sheegto madaxweyne waxba kama ogeyn aan leedahay may waxba kama ogeyn maaha laakiin macnihii madaxweyne wuu yahay oo wax walba waa ka dhaceen waddankii laakiin haddana haddii la rabo in campaign loo isticmaalo la yiraahdo ninkan qalbi dhagaxuu dhiibay soo marka yaa ku bedelaynaa marka waxaa ku bedelaynaa ninkii badda gaday mise ninkii dhulka gaday mise kii cirka gaday marka ma fahanti marka marna ma noqonayso campaign in lagu sameeyo wixii dhacay ayadoo la ogyahay qofkii dhacay iyo qofkii sameeyeyna laga yaabo inuu dhinaca kala joogo laakiin waxaan rabaa inaad doodeena caadi ka dhigo oo aan difaacinin inaa farmaajo difaacana ma rabo oo personaligiisi iyo waxqabadkiisa laakiin waxaan rabaa inaan dadka dhalinyarada ka faa'iidaysan oo doorashada Soomaaliya muddo sanad iyo bar ah oo hadda ay dib u dhacsan tahay madaxweyne farmaajo waxaa laga hayaa doorasho qof iyo cod aan rabaa doorasho waxaan rabaa 135 oday ay samaynayeen codka u registeraysan dawladda ay soo xulanayaan doorasho waxaan rabaa ay ka qayb galayaan 300 oo qof meesha hadda 101 qof laga dhigayo waxaa laga hayaa intaasoo wax oo mar walba ay ku tusayso participationka dadka ka qayb galaya iyo dadka Soomaaliyeed in codka loo dhaweeyo iyo in mar walba uu kalsooni ku qabo dadka inay codeeyaan dadka inay wax qabsadaan ayaa ka dareemaysa dhinaca kale waxaa kasoo horjeeda marka waa ku fahmi kartaa inuu farmaajo dadka u dhaweynayo inuu farmaajo loo diidan yahay inuu dadka codkooda weydiisto in dadka ay ka qayb galaan dadka in tartan la galo oo lagu kala guulaysto in loo diidan yahay farmaajo waxaa ku dareemaysaa waxaa la yidhi hal magaalo doorashada lagu qabto meeshii 2 magaalo waxaa la yidhi meeshii 101 ahayd ha laga dhigo 51 waxaa la yidhi meeshii 135 oday ay soo xuli lahaayeen odayaasha ha laga dhigo odayaasha soo xuli doona hadda habraac 27 May la sameeyay waxaa ku qoran doorashada odayaasha maamul goboleedka ayaa soo xulaya dhibic intaas bes ku qoran ma jirto odayaasha 135 ma jirto odayaasha u registeraysan male maxamed hadduu tago hadeertaan Soomaaliya gobolada maamul goboleedku rabo waxaa loo qori karaa oday dhaqameed waa isla 24 saac ka hor inta la dejinaa la soo dejinaa odayga noocii rabay u maamulaan laakiin farmaajo wuxuu rabay inuu 135 la yaqaan ee wax soo qoraan waa laga diiday meesha 101 wuxuu rabay 300 inuu ka dhigo 300 wuxuu rabay hadii 4 xildhibaan la dooranayo midkii 300 inay doorato si dadku u bataan marka intaasoo option oo dadka loo dhaweynayo dhan ayuu rabay dhinaciisa dhinaca kalena waxa yaala meel la koobayo in doorashadii la galo meel la koobayo in mataqaanaa go'aamadii la gaaro marka yaa waa qofka raba yaa waa qofka diidan umad Soomaaliyeed raba in la weydiiyo su'aashaas bal waxa ka jawaabaan yaa waa qofka raba shacabka inay ka qayb galaan yaa waa qofka aan rabinin inay shacabka ka qayb galaan aniga hadii wax yar maxamed
haddii la yiraahdo aniga maxamed haddaan iraahdo adigoo maxamed oo London jooga ayaad register isku samayn kartaa waxaad tigi kartaa muqdisho waa ka codayn kartaa maxamed oo Sweden jooga wuxuu tigi karaa register isku samayn karaa wuxuu tigi karaa muqdisho waa ka codayn karaa wuxuu ka mid noqon karaa dad ku dhow 100,000 oo qof oo ka qayb galaya doorashada haddii marka fursadaas aad heli karto iyo marka lagu yiraahdo 51 qof iyo hal magaalo oo qofka odayga wax soo xulaayeen aniga aan soo xulaay adigiina aan wax soo xulis ma jirto marka meel ku furan yaa waa labada qof wax ku diiday hadda waaya maxamed soo dhawow horta walaalkii aad u mahadsan yahay feeri waxaa la rabaa wax yar baan aan dib ugu noqonayaa oo aad u kooban mid waxa weeyaan mid walaalkii uu dhahay sheeka riwaayadeed oo dalka maxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan walaalkii weydiiyo dalka Soomaaliya anigu madaxweyne u dooranay wixii ku saabsan amniga markii waddanka laga hadlayo ninka madaxweynaha dalka ah madaxweynaha adduunka dusan soo madaxweynaha loo sheego laba shay baa muhiim ah subax walba sirdoonka dalku waxa waddanka ka dhacay inta uusan quraacin ka hor ayaa loo keenaa waa subax walba wax alla 24 saac gudahood wixii waddanka ka dhacay baa loo keenayaa ninka maxaan ku dhahay sirdoonka madaxda ka ah wasiirka arrimaha dibadda wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha qofka borotokolka madaxweynaha u qaabilsan dadkaasi waa dadka 24 saac gudahood maalin walba madaxweynaha reportka siinaya weeyaan waa midku walaalkii Cabdiraxmaan Odowa uu sheegayay oo lahaa waxa musiibo ah idaa kunta la tadri macnaha haddii aadan ogeynna waa musiibo haddii aad ogtayna waa musiibo laba jeeraba musiibay ku tahay nin dhan oo waddankii maamulahay in la yiraahdo waxba kama ogeyn taasaaba ceeb iyo fadeexan nooga ah tan ku saabsan maxaan ku dhahaa doorashada walaalkay leeyahay maxamed cabdullaahi waxaasuu rabay hadduu rabay walaalkay dimuqraadiyad hadduu rabay cadaalad oo ah dimuqraadiyaddu waxa anagu aan Soomaaliya aan la rabno ah oo Soomaaliya anagu waxaan la doonaynaa inaynu Soomaaliya waxaan dimuqraadiyad ahayn waxaan walaalo ahayn waxaan wada hadal ahayn waxaan konsahay wax kale maba Soomaaliya lagu xukumi karaba waxa weyn waa check and balance wax kale maba jiro Soomaaliya lagu xukumi karaa saas daraadeed waxaan doonaynay goboladan hadda walaalkii dhowr gobol waxaa jirta walaalkii maxaan hadda gobolkan meesha la yiraahdo South West oo kale waxaa la yiraahdaa madaxweyne lafta gareen waa ninka farmaajo ugu dhow baa la yiraahdaa wixii ka dhacay waad ogtahay adiga qaabka doorashada u dhacday waad ogtahay hadduu walaalkii uu dadka ugu badan ee diyaarad laga reebay dadka ugu badan ee diyaarad laga reebay dadka ugu badan ee la bahdilay waliba dadka ugu badan ee maxaan ku dhahay suku waxa weeyaan waxay ku dhacday gobolka walaalkii uu laga taageersan yahay ninka haysta ilaa shalay tolo u boobay ayaa lagu sameeyay marka ma doonayo hadda inaan dib ugu laabto laakiin anigu waxaan ka aaminsanahay sida runta ah 5 sano oo Soomaali waxa soo martay waxaan ku tilmaama aan garanaynin 2,000 oo qof ama 3,000 oo qof oo baraha bulshada ka shaqeeya oo shaqo abuur looga sameeyay Soomaali way ka balaaran tahay way ka weyn tahay way ka culus tahay markaad fiiriso Soomaali meesha ay joogto wixii la filahayay waxaan doonayno sahanku meesha u socdo waxa weey intaas way ka balaaran tahay laakiin waxa ay oran kartaa hal abuurka wax muhiim ah moogtahay madaxweyne Cabdullaahi farmaajo wuxuu soo celiyay qabkii ummadda Soomaaliyeed ciidamo dhisay mushaar buu bixiyay waxaas baa dadka loo sheegaa mushaharku waa waxa ugu hooseeya ee bini'aadan la siiyo weeyaan mushaharka qof kasta bixin kara waddankan waxa laga hadlayay in lagu sameeyo investment lagu sameeyo dawladaha diyaar u ahaa bangiga adduunka maalinka khayr meesha ka baxay ugu shaqo ugu dambeysay waddanka marka xun kulay meesha asagu marka suu joogo xun baa la qaban jiray waaya labadiinaba waxaan jeclahay markaana fursad inaan siiyo daawadayaasha sidaan hore u ballan qaadna fariimahoodan soo qaadan doonaa haweeye ciise waxay leedahay su-aashii waxay ka jawaabaysay doorasho miyaa mase dib u noqosho waxay leedahay waxaa dhacay waa dib u noqoshay leedahay waayo dagaal ayay Soomaaliya qarka u saaran tahay marka loo eego xagga doorashada ka hadlaysaa oo la isku fahmi la'yahay Xuseen Taama muujeeda adiga ma dareemi kartaa dareenka ay qabta haweeye oo kale waa run sababtoo ah markii loo diido dadka shacabka inay codkooda dhiibtaan iyo inay ka qayb galaan doorashada odayaashii dhaqanka ee soo jireenkaana loo diiday inay codka qabtaan iyadoo looga mamnuucay taas habraaci May lagu sameeyey xamar oo Rooble oo mas'uul ka ahaa waa run haddii la raaci lahaa talada madaxweyne Farmaajo dadka codeyn lahaa waxaa la qaadan lahaa mataqaanaa dad tiro badan oo dhalinyaro ah oo ka qayb gala qof walba lama soo qori lahayn cadaawadda qabyaaladii maanta meel kasta taalami ma lahayn wadaninimada iyo kartida iyo aqoonta la isku dooran lahaa
gabar walba iyo wiil walba maanta meel kale ku jira iyo codkiisa xaq u lahaa inuu dhiibto iyo in la doorto asagoona u baahanin oda qabiil asagoona u baahanin inuu mataqaana lacag bixiyo asagoona u baahanin inuu dad wax ka sheega ama dagaal abaabo marka nasiib darro waay in maanta wixii ay rabeen ay lahaayeen ha lagu heshiiyo Soomaali waa walaalkay kugu sin iyo ereyada noocaas loo isticmaalayo dhan hadda aragto waa ereyada dalaaliinta isticmaalaan hadda aragto ninku lahaay maaragtay igu sin walaalkay aad tahay macnaheedu waxa weeye sharci ma rabo macnaheedu waxa weeye wax dadku u dhaxeeyaan ma rabo macnaheedu waxa weeye awood waxaan rabaa inay siiso oo dadka waxoodii anoo dadka mas'uulka ka ah dadkii marka la rabay in wax la siiyo ma rabin in la siiyo laakiin anaa dadkii mas'uulka ah wax isii marka hadda aragto ereyadaas qof Soomaali oo ku hadlaya waa siyaasi rabo inuu dadka afduubo waa siyaasi rabo dhalinyarada inuu waxoodii qaato marka ereyadaas iyo noocyadaas oo dhan waa waxyaabihii nasiib darrada ay tahay in uu loo ogolaa waayo inay maanta ka qayb qaataan meesha aan joognana waan gartay qaybaha dhaxan jecelaba markaana qaybta doorashada qof iyo cod waan fahamnay iyo dhibaatada iyo halista hortaagan waxaan arki jirnay laga soo bilaabo dawladii lagu soo dhisay carta ilaa iminka in ra'iisul wasaare iyo madaxweynuhu isqabsadaan waxay kamid ahayd siyaasadda Soomaalida oo isqaban jireen waxaa dhici jirtay fikir kala duwanaansho inta ugu badan waxaa la arki jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo labaduba u tartama jagada ugu sarreysa markii doorashada la gaaro oo qof walba uu rabo inuu madaxweynaha waddanka noqdo laakiin hadda dagaalka iminka amase fikradda siyaasadeed kala duwanaansho kaliya maaha waxaa muuqata arrin amni in xafiisyadii qaranka ugu sarreeyey iyo ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu aad u kala fog yihiin taa ma la dhihi karaa qayb weyn bay ka tahay dib u dhaca doorashada ku yimid makiyo niyone horta waxa weeyaan waxaa fiican horta dadka Soomaalida waxaan u sheegi rabay wax yar oo ku saabsan markii laga hadlayo qof madaxweyne ah oo meel xukuma ama wasiir ama ra'iisul wasaare xadiis waxaa jira oo nabigu leeyahay xadiis inuu haban u maleynaya sallallahu alayhi wasallam qofka man carada amruhu lil'am yani qofka asagu intuu banaanka iskeena bulshada in xitaa wax laga sheego waa la ogol yahay macnaha si oo edeb iyo anshax ku jira looga sheego waa la dhaleecaynaya maxaa yeelay waa qof mas'uul ah oo wax weeyaan gurigiisa ka soo baxay wax inagu aan isku leenahay oo share ku wada nahay qofkaas mas'uul ka yahay marka horta la fahmo macnaha dadka qaar bal markii laga yaabo marka maxaa Cabdullaahi Farmaajo ku celiyo in iska xanaaqaan marka waxaan u sheegayaa in ay diinta oo gashay qofka in wax laga sheego soo edebtiisa laga tagaynin walaal tahay Maxamed Saciid sababta maxaa keenay waxaa keenay siyaasadda waa la isku qabtaa waa la isku hardiyaa waxaa ka dhaca loolan baa ka dhaca dhibaata ka dhacda laakiin weligeed Soomaaliya ilaa shirkii carto ilaa hadda ma gaadhin in qofka sida bisad yar oo ku xidhay qolka marka u dambeysay adeeg kula dagaalamay space dadka loo diiday saaxa kubad in la ciyaaro kubadda in la ciyaaro la wada ciyaaro siyaasaddu waa kubad oo kale weeyaan waa in la wada dheelo weeyaan dadna qof baa dhawaanta dhalinaya ku guulaysanaya dadkii siyaasiyiinta ahaa yani waxaan 5 sano waxaan aragnay waxa la yiraahdo fikirkii Bush oo kale ee ahaa imma macana aw lidana macnaha ama waa nala jiraysaa ama waxaa tahay qof oo daba dhilif ah qof nacladi ku dhacday qof wasakhaysan baa tahay dadka ilaahay uu doortay oo kaliya waxa loo yaqaanaa waxa la baahiyay inuu yahay walaalkeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo inta taageersanay kala bisoo kaliya ayaa la fikirkaas la galay saas daraadeed madaxweyne dhan oo gobol xukuma oo sharci ah ayaa intii Ethiopian diyaarad lagu soo qaaday ayaa waxa la doonayay in lagu sameeyo ikhtidaaf in la afduubo oo diyaaradii Ethiopian la keenay generaal Ethiopian oo ka soo baxay waddanka Ethiopia Ahmed Madoobe waxa la doonayay in la afduubo la doonayay waa wax la wada og yahay weeyaan madaxweynayaashii kale ee Xasan iyo Sheekh Shariif san hadda u sheegay ee idinka horreeyay ayaa habeen cad xabad lagala daalay in Cabdishakuur baa dadkii Cabdiraxmaan Shakuur oo nin siyaasi ah oo murashax sare soo ahaa oo wasiir soo ahaa ayaa gurigiisa lagu weeraray oo ogtay 5 qof in laga dilay 4 laga dilay marka aaminaadii baa dhimatay dadkii way kala fogaadeen siyaasiyiintii baa kala fogaaday meel fog baa la kala gaaray rooble waad ogtahay meesha la gaarsiiyey meeqa jeer baa qof la xanibay meeqa jeer baa wax la sameeyey taasi waxay keentay marka in hadda la yiraahdo wax kasta ha dhaco bal mar ninkan aan isdhaafino haddii la yiraahdo mar aan isdhaafino wax aaminaad ma jirto aaminaad siyaasadeed baa waddanka meesha ka baxday ma jirto aaminaad siyaasadeed taas waxay keentay in qof kasta inuu maxaan ku dhahay oo dhan ordo marka waayahay aan xuseen fursad siiya laakiin xuseenow waxaan israacsiinayaa markii fikirkiisa iyo weliba daawada ka mid ah daawadayaasha Ismaaciil baa la yiraahdaa wuxuu leeyahay farmaajo waa qariska tuur waa fikirkiisa isaga wuxuu leeyahay dadka ayuu kala qaybiyay iyo dalka ayuu kala qaybiyay 30 sano kadib wadankii uu kala qaybiyay uu leeyahay
dareenka noocaas ah ee ay qabaan Ismaaciil iyo Maki miyaadan dareemaynin in dadka qaar ay u arkaan madaxweynuhu inuu kala qaybiyey qaasatan markay timaado arrimaha xagga doorashada siyaasadda waddanka بالعكس وبدبادي ودنك لكن waxaan qirayaa hadda hadalka uu sheegay Maxamed Maki wuxuu yiri qayre markii uu baxay ugu dambeysay dhaqdhaqaaq iyo dawladnimadii waa maadsantahay arrintu waxay ku socotaa su'aashaadii hore oo ahayd ra'iisul wasaaraha iyo mar walba maxay iskugu dhacaan mataqaanaa madaxweynaha marka haddii qayre ugu dambeysay inay kadib aan waxba la qabanin oo dab lama shidan macnihi dal dhacdo haddii dhinaca kale aad tiri cabdiraxmaan cabdishakuur la weeraray qalbi dhagaxa la dhiibayna uu ra'iisul wasaaraha qayre adiga la raba markii inaad iswaafajiso labadaas oo isku dhex darto ninkii ra'iisul wasaaraha ahaa marka aad wax eedeynayso mase ninkii madaxweynaha ahaa midaas waa meeshaas aan uga baxaya riwaayad waa isaan ku sheegay sida wax u dhaceenna waa maalin walba dhalinyarada bajaajta la dilo maalin walba wax qaladaad ka dhaco coroonaha waddanka yimid sida wax uga dhacaan ayay la mid tahay dhacdooyinka dawliga maalin walba dhaco qofkii qaldanaa iyo ciddii qaldaneed iyo siyaasadda guud iyana waa kala duwan tahay mar walba farmaajo in la dhaliilo in la eedeeyo qof walba xor u yahay qof walba waa ku saxsan yahay laakiin political siyaasadda haddaad rabto inaad wax ku dhaliisho haddaad rabto inaad wax ku samayso waa okay laakiin haddaa caawa dhan ku celcelino qalbi dhagaxa la dhiibay axmed madoobe habeen la dil rabay subaxa la cuni rabay sunaa la sii rabay siyaasad ma ka hadlayna mugti markaa siyaasad rabno inaan ka hadlana laakiin waxaan ka hadlaynaa sida haddeertaan boontiyada aan u haysano oo kale ah axmed madoobe sharci ma yahay mase ma aha taasaa imaanaysa intaa laga hadlayba in la dil rabay in kale mugta marka boontiga oo rabo oo kale waxa waaye dadka oo mar walba dhaliilo farmaajo haddaa rabto inaad dhalisho waxaa ku dhaliili jirta shala waxa waaye doorashadu rabaa inuu boobo siyaasadda soomaaliya rabaa inuu xoog ku qabsado 9 bilood ku dhow asaga meesha ma joogo waxaa jooga Roble su'aashaadii hore daba socota mar walba maxaa isku dira madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha doorasho wuxuu qabtay oo tii ugu xumeyd Soomaaliya ka dhacay taariikhda siyaasadda arrimaha dibadda waa aragtay qalqalka iyo dhibaatada ka dhacday ganacsiga isku bedeshay ciidamadii waxaa tiraahdaa daay mushaara ugu yar wax la sii dhinaca kale waxa ugu fudud la bixiyana waa mushaar Soomaa taasna qofkii laga waayo soo dhibaato ma qofkii hunguriyeeyay mushaarka ciidamada oo waxa ugu yar ah hadda sidaa sheegtay waa waxa ugu yar oo la bixiyo Soomaa mushaar qofkii waxa ugu yar ee mushaarka la bixiyay hunguriyeeyay taasna waa dhibaato kale Soomaa iyada marka intaas qofkii dhisay ee keenay 4 sano ee ku bariyay dadka inay dadka doorashada qabsadaan ee ku bariyay dadka inay nidaamkan dawliga ee ciidankii iyo askartii iyo nidaamkii dawladda nimadii ay qaataan ani ma arko qalad ka weyn ma jiro farmaajo uu galo waa inuu roob la magacaabo oo meesha keeno laakiin wax kale oo ani aan dhihi kara hadda malaha oo qalad uu ku galay ama waa lagu samayn karaa oo ahayn magacaabid oo roob la magacaabo waaya maxamedow arrinta doorashada rabaa inaan dib ugu soo laabto qayb ka midana uu ka dhawaajiyo Xuseen qaasatan doorashadan imika la qabtay wuxuu leeyahay doorashadii ugu xumeed buu ra'iisul wasaare roob la qabtay mas'uuliyadda kaligiis baa la saari karaa mise waxaa la saari karaa dhammaan inta siyaasadda ku jirta haba ugu horeeyaan hogaamiyaasha ama madaxda maamul goboleedyada feeri waxa weeyaan ani waxaan aaminsanahay dalkan wixii ka xumaado oo dhan dusha waxaa looga tuurayaa 5 sano dalkaas wixii ka xumaaday waxaa dusha looga tuurayaa maxamed cabdullaahi farmaajo ilaahay ka sawaabiyo wax kasta oo xumaaday dusha waxaa looga tuurayaa maxamed cabdullaahi farmaajo isagaa mas-uul waddan ka ahaa maamulkaagu markuu adiga uu xumaado adiga markii aad isku dhex yaacdid baa wax kasta uu imanaya sida runta ah tan hadda dhacday farahu kula jiray hadduusan faraha uusan kula jirin amniga airportka isagaa gacanta ku haya alxamdulillah farmaajo ku haya maxaa loogu diidayaa dadka murashaxiinta ah ee raba inay aadaan goboladoodii oo u tartamaan oo odayaashoodii ay kursiga siiyeen sida Shariif Sakiin oo kale sida ninka la yiraahdo Cabdicasiis Cabdirashiid Sheeqaalo oo kale intaas oo qof sida ninkii muuday ahaa raggii waliba taageersanaa shalay toola taageersanaa nabadii nolol taageersanaa ee la muudsaday markaasna iska tuuray waa loogu diidayaa waxa u diiday waayo alxamdulillah farmaajo ma maxaa rablo kaliya loo markaa jawaab adoo raalli ah markaa dhex kale markaa jawaab waxaan jeclahay xuseen Shariif Xasan Sheekh Aadan baa ka wadahan filaya markaa jawaab ما دم له حبات دي عدو يعني كنا هاي جواب أدور عليه أكاد حكلا أيوة ولا إن صوبت كانت وحوي إن أربورك اللي بحر مقدشو iyo in siyaasiyiinta loo jiido inay ka qayb galaan doorashada sababta keentay in kursi loo xiro qof sababta keentay in qof la magacaabo qofkii la rabo sababta keentay in kursi wasiir ka jooga Jubbaland loo bedelo Puntland
waxa weeye waxa habraac la sameeyey 28 May wuxuu dhigayay in madaxweyne goboleedka uu awoodda leeyahay dadka Soomaaliyeed inay fahmaan la rabaa madaxweynaha maamul goboleedka awood waxaa la siiyey 100% oo laga bixiyay gacantoodii guddigii doorashada haddii ay dhici lahayd in guddiga doorashada awood la siiyo asagaa maamuli lahaa airportka kana Muqdisho iyo ka maamul goboleedka asagaa bixin lahaa shahaadada asagaa bixin lahaa oday dhaqameedka asagaa bixin lahaa natiijada asagaa noqon lahaa midka oo loo dacwoodo iyo midka judge-ka asagaa mid walba noqon lahaa laakiin hadda maalinka doorashada la galaya waxaa go'aaminaya madaxweynaha qofka soo baxay waxaa go'aaminaya madaxweynaha qofka soo baxay xamar waxaa go'aaminaya madaxweynaha qofka maamul goboleedka wasiirkii duraan oo ka tirsanaa Rooble ayaa airportka maxaa la yiraahdaa kuwaas xisaabta kuuma jiraan wasiirada la soo celiyo way qaldan tahay maya oge aduu kugu jira xisaabta kaas maya way ku jirtaa maya feeri rag badan baa loo diiday oo rabay oo sida runta oo loo diiday waan ka xumahay waan dhaleecaynaya ma taageersani wixii qalada siisaba waa qalad weeyaan laakiin waxaad ogaataa guddiga farmaajo uu rabay inuu magacaabay ee doorashaduna guddi shaqaale rayid ah iyo dadkii neese u shaqaynayay ba ahaayeen marka wax la soo dhoobay oo adiga maxaan ku dhahay adiga baad ogtahay alif inay ka bilaabmayso yaa ku dhammaanaysa ogtahay waxaasi doorasho lama yidhaahdo aniga fiir waxaan ka hadlayn walaal waxa weeyaan dalkan doorasho waxaa la yidhaahdaa wax fiir shalayta hore shariif meel buu gaarsiiyey meeshaas uu gaarsiiyey xasan baa kasii wanaajiyey xasan qalad ma laha qalad buu lahaa shariif qalad ma laha qalad buu lahaa عبدالله يوسف قرض مرة وولها نظام كستو أي مادة قرض بوجي لكن نظام كستو يدو حدونينا ماشي سنة ولا وجوجي إنه وحكود درو وهجاجيو رمور بكسي هجاجي وحير إنه طلبه هري وقاضو مد أنكوها سنة محمد وحويان وحكست مركو حكم كوإماضي وحكود تلقلي دلكن سئان هين ديمقراطية سئان ولا هذا هين سئان ولا رو أهين سئان هشيس أهين إنه دلكن أمامه هل كاسي بهاش وكقل عضي وحنا جدينه وحصل علي wax marka alif wax ku soo halaabay alif ku soo halaabay albaqara lagu hagaajin karo way xagee ka laabeen haddaad tiraahdo doorasho qofkii cod ma rabo haddaad tiraahdo doorasho odayaal dhaqameed dooranayaan ma rabo oo 135 ahaa haddaad tiraahdo guddiga hadda leedahay niisi ayeen guddiga gudoomiyihiisa Ciro ahaa galmudug maxamed daahiro ahaa kulligoodna waxa la lahaa niisi ka tirsiin ayagana hadda doorashada qabtay soo marka guddiga aan rabtay waa guddi idinka aan rabtaan oo aad la gashaan waa sida daayaan ku sheeg qofka marka afka laga qabto waxa la yiraahdaa guddi dhexdhexaad macnaheedu waxa waa si u dhexdhexaad loo noqdo waa in anigana 10 isiisaa adigana 15 aan qaadataa dhexdhexaad waay laakiin guddi haddaan magacaawdo nin walba oo ku shaqeynaya sharci oo aan wada dhigano habraacaasna aan laga bixinin qofka micno ma sameeynayo hadda fiiri dadka dhan waxa doortay guddiga maamul goboleedyada laakiin guddiga macni maxay u sameeyeen shakhsiyadooda habraac yaa qabanay habraac wuxuu dhigayaa madaxweynaha maamul goboleedka soo magacaabaya qofka asagaa saxiixaya asagaa bixin kara asagaa diidi kara laakiin haddii habraac la soo saaray la yiraahdo guddiga shaqada qabanaya oo ka bilaabanaysa a ilaa z madaxweynaha maamul goboleedka shaqo kuma laha markaas waxay ku haystay labadaas ahayd feer walaal xuseen waxaa jirta axmed maxamed yuusuf waxaa jirta iskuma diidanin doorashada Soomaaliya ka dhacday waxaan isku waafaqaynaa inay ahayd doorasho aan qurux badnayn doorasho lama oran karo anu kulli agtayda doorasho ma ku tilmaami kar sida runta ah ilaa dhowr waxay maxamed adoo raali dadku waxay ku xuman tahay walaal yuusuf waxay aan ka baxo waqti qaatay sug waxa weeyaan iska dulqaaday in yar doorasho laguma tilmaami karo absolute waan ku raacsanahay doorasho laakiin waxaan yaa dalka meeshaas gaarsiiyey weeyaan jidkan yaa soo bilaabay weey yaa dadkan feer 4 sano oo ninkani kursiga uu joogay oo mandaad la siiyey oo la rabay doorasho inuu ka shaqeeyo wax lagu heshiiyo lama aadin waxaa lagu talagalay in la kala jid la yiraahdo jidka in la kala adkaado oo la isweeraro oo la isbahdilo oo marna galmudug la aado marna la weeraro maxaan ku dhahay baydhabo la weeraro marna jubbaland iyo kismaayo la weeraro yaa lagu talagalay jidkii dowladnimada Soomaaliya lagu dhisi lahaa dib loogu soo celin lahaa wada hadal la geli lahaa waxa la isku darsan lahaa jidkaas baana dhashay waxaan ujeedada maanta ee qaabka daran kaasa dhashay sida runta ah isku dayin inaad halkaas ka leexiso walaalow
وايه حسين iyo maxamed waxaan jeclahay inaan fursad siiyo daawadayaasheena kala meel caalamka joogaan waxaan idin xasuusinaynaa inaad si toos u daawanaysiin barnaamijkeena maalmaha dunida toddobaadyada kalena aanu soo qaadan doonno dooda la xiriira hadba xaaladdu meesha marayso tusaale ahaan doorashooyinka oo aad u moodid martida barnaamijku inay isku raacsan yihiin nidaamka loo maray si guud inuusan waafaqsanayn habraacyadii lagu heshiiyey aan dib ugu laabto su-aal soo noqotaa jirto daawadayaasha toddobaadkanna weydiiyeen waxaa ka mid ah kaalinta awoodda khaasatan maamul goboleedyadu mararka qaar waxaa dhacaysay sida daawadayaasha in badan oo ka mid inay nala wadaageen in maamul goboleedku noqdo midka xataa buuxinayay odayaasha beelaha dadka ay ahayd kursiga lahaa maadaama ay tahay nidaamkan nidaam qabaa'il oo qofkii ay dooranayaan qabaa'ilkiisii ka soo baxaya beeshii markaa uu matalayay deegaankaasi uu ka soo baxayo waxaa lagu eedeynayaa maamul goboleedyadu in awooddoodu ay aad uga badneed heshiisyadii laysku raacay mararka qaarkoodna ayba iyagu ahayeen kuwa qoraya odagii dhaqanka ciddii dooranaysay iyo nidaamku siduu u dhacayay taa miyaysan kuu muuqanin xuseen waa maadsantahay waxaa la rabaa soomaalida walaalahay inay fahmaan heshiiskii 17 September markii la sameeyey kadib waxaa la sameeyey habraacaas wuxuu dhigayaa ka soo qaad maxamed wuxuu rabaa inuu noqdo xildhibaan stepka ugu horreeya marka habraaca hadda la sameeyey wuxuu dhigayaa inaad madaxweynaha ka soo qaadato waraaqad aa u tagto oday dhaqameedka inuu kuu soo sameeyo waraaqad inaad tahay qofka kursigaas qof u tartami kara eber oo kale oday dhaqameedka waxa uu waraaqadaa ka soo qaadatay hebel waxaa la tegaysaa guddiga doorashada guddigaa ku rajisgaraynaya shahaadada yaa lagu siinayaa kadibna maalinka doorashada imaanay habraaca hadda jira saas habraacii marka la rabay inuu farmaajo sameeyo hadduu ilaahay waafaji lahaa soomaalina ku badbaadi lahayd waxaa waaye odayaashii 135 ayaad waxaad ka soo qaadanaysaa inaad tahay qof qabiilkan ka tirsan markaad ka soo qaadato waraaqada musharaxa odayga kama bilaabaysa broseska madaxweynaha odayaasha ka bilaabaysa meesha lagu kala duwan waxaa waaye marka oo awoodda siisa madaxweynaha maamul goboleedka awooddii hadda asagay ka bilaabanay asaga adoonan waraaq ka haysan ma aadi kartid odaygii uu asaga samaystay oo maamul goboleedkii fadhiya taasna waxaa u saamaxay habraaci 2027 May la sameeyey ayadoo lasii badbedelay weliba oo maalinba haaf laga jaray ilaa iyo Agoost sanadkii hore marka habraacyadaas qaldan awood waxay u siiyeen madaxweynaha maamul goboleedka in uu ku noqdo asaga ay ka soo bilaabmaan hadda waxa keenay inay isku dhacaan waxa ku fahmi kartaa awoodda madaxweynaha inuu leeyahay oo ayada ay isku haystaan hadda waxa la soo saaray galmudug iyo koonfur galbeed waxay soo saareen jadwalka lagu dhaarinayo xildhibaanada inay ka soo horjeedaan sababta ay uga soo horjeedaan qof kasta waa ogyahay waa in shahaadada loo diiday xildhibaanada qaar oo roobla ka reeb dhinaca kale waxaa la rabaa in madaxweyne la doorto gudoomiye baarlamaan la doorto doorashadii socoto dhinaca kalena waxaa la soo saarayaa mar walba laba choice oo ah doorashadii waa soconee laakiin sida ani aan rabay u soconay ama doorashadii ma soconayso ilaa sida ani adiga aan wada rabnay u socoto marka meel walba isbaaraa taallo oo wixii in sharci lagu heshiin waa la diiday lagu heshiiyo waa la kala badsanaa ugu horeeyay isbaarada waa laga gudbay isbaaro waxaa nugu dambeysay 9 nugu dambeysay 2000 isbaaro siyaasadeed waaye luqadda casri waaye mugta isbaarad siyaasadeed iyo isbaaro maxaan ku dhahaa military bayaa soo celiyey taas wey fiiri dadkan cabsi baa jirta niyoon waan isla fahnaa dadkan cabsi baa lagu abuuray waxaa soo baxay dhaqan ah waan ku dili waan ku xiri waan ku xoogi waan ku joojin waan ku hanjabi waan ku dhoofin dhaqankaasaa nagu cusub dhaqankaas bay soomaalidu ay diidan tahay dhaqankaas baa la diidan yahay marka waxa keenay waxa weeyaan kalsoonidii baa dhimatay dalkii wuxuu u kala fadhiistay laba kooxood baa u kala fadhiistay oo waaweyn waagi hore waxaas ma jirin koox oo taageersan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo koox mucaarad ah marka mucaaradnimadu waxaa la doonayaa iyo muxaafidka labadaba in si miyir qabta loo wada hadlo loo doodo loo niqaasho laakiin walaal waxaan dhaqankan ku salaysan waan ku dilahayaa oo waan ku xidhahayaa oo waan ku xoogahayaa oo waan ku joojinayaa taas baa waxay keentay cabsi ismaamul goboleedyada marka aan farmaajo taageersanayn cabsi baa meeshaas gaadhsiisay marka kuwan kale qudhigoodana xalaal maysan ku imanine meesha waa loo xoogay intii loo xoogay baa lagu fadhiisay meeshan oo raggii la tartamaya xitaa qudhigooda doorashada ii sheegaysa maxay tahay farmaajo aad ku faanaysa raggii meesha la yidhaahdo koonfur galbeed muxuu ku soo baxay ninkii la tartami lahaa harko cad baa Etoobiyaanka inta soo xidheen baa xamar lagu hayaa ilaa hadda wax ku xidhayaan la garanaynin marka dhaqanka noocaasa baa abuurmay anagu dhaqanka aan doonayno waxa weeyaan dalkeenu inuu hal tallaabo hore u qaado
wada hadal dimuqraadiyad nabad xoog wax la yidhaahdo intaas iisu maxamedow xoog wax la yidhaahdo iyo kala adkaansho hadday wax tari lahayd wiilal yaryar oo soomaali ah oo macawis qabo oo qori aakaha wata ayaa ciidamadii soomaaliya ugu sharafta badnaa ugu awoodda badnaa ugu maxaan geesyada la odhan jiray bay xunka ka rideen macnaha heshiis laguma ahayn siyaasadda weeyaan haddaan heshiis ku dhaqmo siyaasadda lama kala adkaan karo xoog walaalow waaya xuseen iyo maxamed halkan ka dhex galo waxaa u muudaa fariimo kala gedisan oo daawadaashan inay soo degayaan daqiiqada ka dambaysa waxaa lasoo qorayaa fariin laakiin su-aal baa soo noqonaysa marka la fiiriyo goobaha ama magaalooyinka kala gedisan ee gudihii dalka ee doorashada lagu qabtay mar walba waxaan arkaynaa shirar jaraa'id oo cabashooyin oo ay samaynayaan dadkii doorashada qaarkood ay ka sheeganayaan nidaamkii qaarkood sheeganayaan in booskii qof loo xiray shirarka jaraa'id kuma ekeen meelaha qaar waxaynu arkaynaa hub iyo ciidan in la keenay isla markaana ay ka mid noqotaba waxyaabihii markaa ay dadkii tartamayay ay hubkii ciidankii ay keenaan goobihii ama magaaladii ama deegaankii doorashadu ay ka dhacaysay maxaa lagu xasuusan doonaa doorashadan marka loo fiiriyo sida u dhacday xuseen waa mahadsan tahay saaxiibkii mar kale waa salaamayaa waxaan rabaa inaan ka soxo wuxuu yidhi waxaa keenaatay cabsi iyo in lis cabsi geliyo in dowladnimada laftirkeeda cabsi waay haddaysan dowladda laga cabsanin haddaysan awood isticmaalin ama ha qaldanaato ama ha saxsanaatay waa inay awood leedahay dowladda marka hadhow waa ka xisaabtamaynaa qofkii qaldan iyo qofkii saxsan laakiin dowlad awood badan oo dadka caburisa hadduu qaldan yahay iyo hadduu wixiisan yahay waa u baahanaa sababto adi hadda waxaa ku caburinaya sweden waa sharci sweden aa soo saaran magacaa rabti ma samayn kartid dharkaa rabti ma xirin kartid hadalkaa rabti ma sheegi kartid baabuurka noocaa rabti uma wadi kartid meeshaa rabti kama fariisan kartid suun la'aan ma wadi kartid sharcigaa ku qabanaya marka sharcigii iyo awooddii dowladnimada in la hagaajiyo oo la sameeyo oo lagu qasban yahay marka ciddii qalad ku gasha hal maalin hadduu nin bajaajlaa dilo iyo hadduu nin askariya oo madaxweynaha weeraro in loola xisaabtamaayo waa saxsantahay laakiin in awood dowladeed la isticmaalo marna qalad maaha waa in la xoojiyo waay taas waa adkeynaya sababta oo gobollada ay u isticmaalayaan su-aasha haddaa usoo noqdo maxamed oo hubka inay isticmaalaan maamul goboleedyada waxa waaye laba xisaabaa jirta sidaan kuu sheegay markii habraaci la sameeyey habraaci wuxuu qadiyey dad badan dadkuu qadiyey marka oo uu ka dhigay mataqaanaa bannaanka uu istaajiyey dad waxaa jira kuraasta ku dulman oo qabiilo u qaybsada markii hore qabiiladii marka loo qaybsaday qof waxaa jira 20 sano xildhibaan ku fadhiyey kursiga qof waxaa jira 8 sano xildhibaan ku fadhiyey oo beeshii xaqirayaa jira oo marka mar walba xamar oo kursigii aali jira ama wuxuu yaali jira kursigii meel kale kursigii oo marka gaalkacay loo keenay oo 20 sano lagala maqnaa in lagula xisaabtamo mucaaridi muxaafid marka laga soo tago qabiilka dhexdiisa ku xisaabtamaan awood loo isticmaalo taas waa mid qabiil iyo mid meel ku dhexaysa waa mid mucaarad midna ma midda kale waxa weeye awoodda in la siiyo dadka shacabka ayaa keenaysa in waxaas oo dhan laga badbaado haddii ogyihiin dadka qoryaha soo qaadanaya magaalooyinka imaanaya inay codayn karaan nin walba qori soo qaata hadduu ogyahay codkiisa inuu qaadan karo inta tago gaalkacyo uu codayn karo qori ma soo qaadan lahayn laakiin hadda habraaca la sameeyey madaxweyne maamul goboleedkii waxaa la yidhahda isagaa qofkuu rabo xiraya kursiga qofkuu rabo u furayaa 20 sano uu qofkan kursiga kaala maqnaa maalinkii marka magaaladaadii la keeno kursigaagii waa ku qasbantahay inaad qori qaadato marka haddaa ogoleen in dhex lagu dhigo ama mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdo labada dhinacba qoryaha waa soo qaateen dadku waxay soo tabiyaan badanaa laba kursi oo mucaaradka loogu guulaystay laakiin kuraas badan oo waxaa jira magaalada la xiray oo muxaafadka lasoo siiyaa jiro si ay usoo qaataan magaalooyin badan marka mar walba ma taageersani fikirka ah in dadka laga dheereeyo xukunka iyo ka qayb qaadashada sababtoo aanooyin badanaa lagu gala kuraastan dadaa nairobi iyo carto inta ka dhexaysa u dhexeeya oo kursiga intaas ku fadhiya oo weligood la tegin maamul goboleedkii marka fursaday u tahay in la sii dhoweeyo haddii marka meesha hadda 4 magaalo uu rabo madaxweyne farmaajo in lagu qabto doorashada lagu qaban lahaana dadku waa kasii ciil bixi lahaayeen kursigooda iyo qofkay rabaan haddii loo sii dhoweey lahaa marka waa laga hor istaagay ayada laftirkeeda suugaga hadda lasoo baxsaday dad badan waxay soo baxsan lahaayeen waxyaabo badan waan gartay markii qodobka la xiriira in goobaha qaar ay dadku hub iyo ciidan la yimaadeen xuseen wuxuu leeyahay mararka qaar waxay la xiriirtay beelahaas isla la kursiga in qaarkood ay u arkaan in beel gooniya u xirneed aysan la xiriirin doorashada guud ama maamul goboleedka go'aana la xiriira ani waxay la tahay horta wax yar baan halkan walaalkay aan xasuusin lahaa fikirka ah horta dadku waxa weeyaan qofku ra'yi buu dhiibanayaa qofka kale ma sixi karo sixitaan taas waa qodobka labaad ee kale waxa weeye oo dugsi quraan iyo macallin meesha ma joogo quraanka saxaya qodobka labaad ee kale waxa weeyaan walaalkii wuxuu aad ugu soo celceliyey dowlad dadka caburisa oo xoog isticmaasha aniga aad baan u kala duwanahay nasiib darro aniga waxaan aaminsanahay waxa awoodda iyo xooggu waa sharciga
awoodda iyo xooggu waa sharciga waxa aan ku kala cabsanayno waa dastuurka waxaan heshiis ku nahay waa dastuurka waxa ina midaya waa dastuurka qabaa'il iyo reeraa layahay marka nin walba reer buu noqon reer kama xoog badno soomaalidu waa islaysay laakiin markaan dowlad casri aan u soconno waxa weeyaan waa sharciga waxaad ilowday inaan kugu dhahay hadduu xoog wax tarahayo ciidamadeenni adduunka ugu xoog badnaa wiilal Soomaali ah oo qabiiloo macawisa qaba yarar baa ka adkaaday eriya baan kugu dhahay sababtoo maxay qabaa'ilkii baa heshiis ku noqon waayay dowladdii Soomaalida casrigeeda anaga marka waxaan rabnaa dowlad Soomaaliyeed oo gobolada iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed ay wada leeyihiin oo heshiis ku yihiin baan doonayna anagu ma doonayno dowlad awood badan oo dadka laysa oo haddana maxaan ku dhahay inaga burburta dooni mayno taas waa intaas midda labaad kale waxa weeyaan aan waxaan ku soo xasuusanayaa horta doorasho waxay cajiib ah waxaan ku soo xasuusanayaa qof walba oo reerkiisa iyo deegaankiisa ixtiraamay wax u qabtay ceel u sameeyey biyo u sameeyey inay reerkiisa dib u soo doorteen isagoo sharfan qofkii dulmiga diiday gardarrada diiday 5 sano maya lahaa isagoo sharfan oo qiimo leh inuu soo laabtay ku soo xasuusanayaa waxaan ku xasuusanayaa dadkii ku sigtay inay dhahaan madaxweyne Farmaajo waa rasuul ama waa nabi in harkoo cad laga tagayna waa lagu soo xasuusanayaa waxaa lagu soo xasuusanayaa oo dadka ugu dhawaa ah waxaa kaloo lagu soo xasuusanayaa doorashadan in qabaa'ilka haysta zuuga iyo howlka waaweynka ah in waxoodii la dhici waayey oo lagu dhici waayey oo laga cabsaday ilaa meesha cadaalad ma jirtee marka ayaa dhici rabay adoo raalliya ma meesha u socday inaan ogaado xuseen wuxuu leeyahay hubkii ciidanka mararka qaar waxay ahayd baalihii isla lahaa kuraastas inay maadaama deegaankoodii markaan ay timid 20 sanana kursigu ka maqnaa dad kale ay ku fadhiyaan inay ku ceshtaan waxaa leedahay hubka waxaa loola soo baxay miyaan nidaam caburinaya iyaga laba meelood weeye waa laba magaalo waa laba deegaan doorasho waxa hubka loola soo baxay waa magaalada Beledweyne iyo magaalada Galkacyo labadaasna waxaa la rabay in loo boobo madaxweyne Farmaajo nidaamkiisii dadkii iska lahaa deegaanka odayaashii iyo dadkiina way iska diideen maya baa lagu yiri marka waxaa rabay inay wax boobaan waa nidaamka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baa inuu boobo waa laga diidayna waan gartay aan u soo gudbo qayb xiiso leh oo in badan oo kamid ah Soomaaliduna ay isweydiiyaan kaalinta beesha caalamka badana Soomaalidu markay isqabtaan waxa u moodaa inay dib ugu noqdaan beesha caalamka fariimaha ay qoraan ha noqoto mucaaradka tusaale ahaan midowga musharaxiinta oo kale ama ha noqoto dowladda markaa xilliga joogta inay su'aalaha iyo arrimaha la xiriira doorashada iyo markay timaado warbixinada ay soo saaraan qaybo kamid ah waxaa la dareemaa inay ku qancinayaan beesha caalamka marka kaalin sida ah iyo beesha caalamka arrinta ka qaadan kartaa waliba markay timaado maalmaha waxay ku goodinayeen inay soo saari doonaan liis ay ugu magac dareen qaswadayaal liiskaasoo laga yaabo inuu saameyn ku yeesho madaxda qaranka hadda kuwa jooga iyo kuwa tartamaya iyo kuwa maamul goboleedyada ah marka xuseen kaalin sidee ah ma is leedahay beesha caalamku waxayba noqotay dhexdhexaadiyaha siyaasadda Soomaalida xuseen saaxiibkii waa ixtiraamaya mana saxayo uma taqaana macallinna miyi marka waa mahadsan yahay beesha caalamka waxaa moodaa inay daashay waxayna ka daashay haddaa xasuusataan maalmihii afisyoona la joogay inay ku jirtay waa isku keenid wax la yidhaahdo oo mataqaanaa inay ka keento dani inay axmedoobe keento inay meel keento markii meel iskugu keentayna xerada afisyoone in la hordhigay maaragtay haddaan rabno inaad tagno shuruud noocaasa horta meeshaasay ka yimaadeen beesha caalamka waxyaabaha lagu qasbayena waxaa waaye sidaa muuqata haddaa la ogaado oo ahaa inuu dani musharax yahay midowga musharaxiinta ujeedadoodu inay tahay in ay dani ku daba feelaan laakiin aysan ogeyn inuu qayaani doono ama musharax yahay mar dambe marka waxyaabahaasoo dhanaa soo baxay oo caqabada oo la lahaa Soomaaliya si ay xal u hesho waa in waxa loo yaqaano saamileyda siyaasadda in la xaliyo marka beesha caalamka awoodda ay leedahay waxa waaye inay dhexdhexaadin noqoto maadaama aanan jirinin mucaarad iyo muxaafad cid kale oo ku dhex jirta Soomaaliya maanta hay'adihii dawliga ahay oo dhan ma dhisna marka hay'adda keliya ee dhisan ee lacag bixisa ee la dhegeysan karo maadaama 5-6 musharax ay haystaan baasboor ajnabiya iyo dhaqaalaha maamul goboleedyadana ay bixiyaan taasaa waxay keenaysaa marka deged nuglaan oo dhexdhexaadnimada marka ma aha in dhexdhexaadnimada waxa weeye in Farmaajo la yiraahdo qodobkaas ay ka tageen ee qodobkaas ka tag xalana ay shir ku qabanayaan 20 bisha ee adiga 21 bisha ma imaanay saas dhexdhexaadnimo noocaas markii miiska la iskugu keeno inay ayay ka baxaan
hadhow markay baxaan markii gadaal laga soo waco liiraa dacwaan nahay sababtoo waxaan rabnaa sidaas markaas haddana soo noqdaan beesha caalamkana beel caalam ma jirtee waa 15 dowlad oo kale mataqaanaa ujeedo badan waay haddaa soo saarto ta maraykanka waxay xisaabsanayaan adduunka maalinkii oo dagaalka Ethiopia socdo waxay la jirtaa mucaaradka maalinkii oo dagaalka mataqaanaa Kenya socdo waxay la jirtaa farmaajo marka beesha caalamkii laftirkeedii tira badan oo wadanihii adduunkii waxa saameynaya mar walba meeshii fursadna waxa siinaya mar walba cidda markaas oo ay awoodda dambe ka dambaysa mar walba ay haysato haddii hadda musharax uu taagay dowlad ay wadato mucaaradka ka mid ah saameynay ku yeelanaysaa beesha caalamka ayadoo dhinacii musharaxiina joogta dhinacii beesha caalamkiina ayadoo joogta marka labada saameynba waa soconaysaa marka labadoodaba marka beel caalam oo dhexdhexaad oo rabta inay Soomaaliya horumar gaarto ma jirto anoo soo dhameynaya waxaa jirta beel caalam oo rabta in danaheeda ama musharaxa dhex marsato ama dowlad Soomaaliyeed dhex marsate mar walba inay qof dhex marsato waan gartay markiioo liiskan weliba maraykanku maalmahan ku soo celcelinayeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maraykanka Antony Blinken uu aad u moodid inuu leeyahay liisku soo socdaa weliba kuwa cusub baanu ku dareennaa waxa ay ku tilmaameen qaswadayaasha ama dadka hortaagan doorashada ma laga yaabaa liiskaas inuu horta soo baxo haddii uu soo baxo ma laga yaabaa inay saameyn ku yeelato madaxda qaranka kuwii hore iyo kuwa iminka jooga iyo weliba maamul goboleedyada horta niyow aad mahadsantihiin walaalkay xuseen iyo adigaba anu waxaan u malaynayaa feeri waxaa jirta wax la yidhaahdo shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamku labaduba way codeyn doonaan horta waan isla fahantaa weeyaan intaan aan gaarin feeri waxaa codeynaya baarlamaanka ilaah ma codeyn doonaan waan isla fahanaa shacabka Soomaaliduna way codeyn beesha caalamkuna way codeyn labadaas cod bay qaadan doonaan marka xildhibaanada soo bixi doono ama soo baxayba kadib ay madaxweynaha dooran doonaan haddii la yidhaahdo taa horta waan isla fahanaa weeyaan beesha caalamka marka say u codeyn way macnaheedu marka waan isla fahanaa beesha caalamku waxay u codeynaysaa xilligii xasan way codeysay xilligii shariifna way codeysay xilligii farmaajona way codeysay haddana way codeyn doontaa haddii la yidhaahdo see loo codeynaya marka horta beesha caalam oo wax kuu dhisaysa ma jirto aniga xuseen waan isla fahansanahay taas iyo adigaba qatar iyo turki iyo imaaraat iyo etoobiya kii waddan kasta waddan kasta adduunka jira dan buu kaaleeyahay adiga dantiisu wataa waddan adiga wax kuu dhisayo oo adiga maxaan ku dhahay kuu ooyahayaa kow waxa u ah maslaxadiisa u ah marka laakiin adigu maxaa doonaysaa wey adigu dantaadu maxay tahay adigana taa waa qodob marka waxa hadda u socona waxa weeyaan sidee beesha caalamka u codeyn weye beesha caalamka waxay codeynaysaa waxaa lagu aadin doonaa liistadan soo baxaysa maalmaha doorashada lagu aadin doonaa waxa lagu leeyahay tasriibaad ila warar hoose la suuqa la soo gelin doonaa hebel iyo hebel baa ku jira la oran doonaa nin marka cunaqabatayn ku jira oo aan dhoofi karin oo xoolihiisii laga xayiray oo aan meel la gaari karin cidina ma dooranayso si hoosaa loo sheegi warka lama soo faafinhayo qofka isagu wuxuu ogaan doonaa oo keliya markii maxaan ku dhahay uu dhafo inuu dhoofo ogaan doonaa laakiin xildhibaanada oo dhan baa lala kulmahayaa hal baa loola kulmi labaa loola kulmi kuwa baasaboorada wadamada Yurub haystaa lala kulmayaa ruuxa la rabo in la rido waa laga shaqaysanayaa beesha caalamku taasay marka u codeynaysaa marka sida runta ah maslaxa ma noogu jirtaa may nooguma jirta anaga dan ma noogu jirta Soomaali in faragelin lagu hayo may dan oguma jirto sida runta ah laakiin meel kasta ka dhex kale adiga waa siyoogtay Soomaali maxamed ninkaas Mareykankii waa ku sheegay beesha caalamka mid ah ninka maxamed yani maxad ka wadaa ninka oo la diiday inuu tartami doono oo beesha caalamka ay faafin doonto maalinka madaxweynenimada doorashadii la geli doono oo baarlamaanka inta loo sheegi doono hadda adiga waa ogtahay ninkaas laakiin dadkana daawanayana mindhaa maskaxda ku hayan waa ugu yiinaa malayna farmaajo iyo maydii feeri maxamed walaalkii xuseen anigu ma ogi laakiin waxaa jirta wax la isu geyn baa markaad ka shaqaynaysa siyaasad waxaad ogaanaysaa warar baad helaysaa anigu farmaajo ma ku dhihin laakiin waxaan ku dhahay ninka cidda loo hanjabaysa waa cidda awoodda haysata weeyaan feeri qof horta nimanka murashaxiinta ah oo hadda sida madaxweyne xasan iyo sheekh shariif iyo horta awood mabala kuwaas waa dad iska shacab oo guryahooda iska jooga weeyaan dadka ku jira liistiga oo loo hanjabahayo waa qof awooddii ku fadhiya ama wuxuu noqon karaa madaxweynaha hadda talada haya ama wuxuu noqon karaa madaxweynaha ismaamul goboleedyada buu noqonaya labadaas ayuu miduu noqon karaa iyo siyaasiyiin ama wuxuu noqon karaa rooble ama rooble adigu waa dhici kartaa wuxuu rabaa noqdo taas waa qodobka labaad kale waxa weeyaan shacabka Soomaaliyeed say u codeynayaan aan isla fahanno shacabka Soomaaliyeed waxay codeyn doonaan iyadana doorashadan
ودورشة dadban baa la yidhi wax dadban oo wax aan diyaarsanin oo sii jeedo weeyaan oo qaab daran wey sida runta ah markii xamar la isugu yimaado oo xildhibaanada xamar soo iyo jasiirada hoteelada la isugu yimaado nin waliba wuxuu ehel buu leeyahay qaraab buu leeyahay rag xanaaqsan baa jooga oo la soo ciiray oo lacag wada haystaa jooga nin waliba saaxiib buu leeyahay network baa jira friends baa jira macallimiin baa la isu yahay ruuxa Soomaaliga ah maalinkaas uu ku baahan yahay adiga dadka dhalinyarada soo baxday dad dhalinyaro weeyaan oo sharaf badan wax bartay weeyaan adooma ma ah waxaa saameyn ku yeelanaya shacabka Soomaaliyeed baa saameyn ku yeelanaya way codeynayaan waxaa la leeyahay marka dalkan waxaan u rabnaa nabadgelyo horumar iyo cadaalad iyo dimuqraadiyad baa dalka u rabnaa ma rabna dalkan dib u laabta marka dhalinyaradu marka codkooda waxay siin doonaan isbeddelka iyo horsocodka iyo dimuqraadiyadda ayada oo dhammaan saameyn ay ku sameeyeen bulshadii Soomaaliyeed oo codkooda ay dhageysanayaan rayul caamka waya waxaanu ku sii siqaynaa qaybihii dambe ee doodeena barnaamijka aynu kaga hadlayno doorasho mise dib u noqosho hadba sidii loo fasiran karo markay timaado doorashooyinka ka socda ama se soo gabagaboobaya xildhibaanada golaha shacabka ama baarlamaankaba ee dalka Soomaaliya qaybahan dambe waxaan jeclahay in labadiina bayn kaga faa'iideysano dawadaashan aan uga faa'iideyno waxaan ognahay in bilahan soo socda la qaban doono doorashadaas oo ah qaasatan madaxdii dalka ama ha noqoto gudoomiyihii baarlamaanka kadib madaxweynihii doorashada qaybihii ugu dambeeyay lagu sii siqayo bilahan foodiin ugu soo haya maxaa laga filan karaa baarlamaanka 11aad ee wadanka Soomaaliya mise la dhihi karaa wuxuu noqon doonaa baarlamaan isbedel ku sameeya magaca iminka u baxay ah inuu yahay baarlamaan intooda ugu badan ku soo baxay malxiis intooda ugu badan ku soo baxay nidaam cabashooyin wata intooda ugu badan ku soo baxay nidaam muran iyo isjijiid siyaasadeeda ma laga filan karaa isbedelo dhaba oo dalka iyo dadka wada toosan saara inay sameeyaan xubnaha baarlamaanka 11aad ee dalka Soomaaliya aan ku hormar Xuseen waa baadsantahay haddii ay doortaan farmaajo waa run waxay noqonayaan horumar iyo waxa la gaari doonaa iyo sida hadda loogu socday 5 sano la soo dhaafay haddii ay doortaan kooxda hadda uu dani hogaaminayana waxa tusaale u noqon doonta sicir barar waxa tusaale u noqon doonta federalism oo dawlad Soomaaliyeed iyo caasimad bulsho iyo ciidan qaran aan dhismi doonin marka fursadda way haystaan saddexda musharax ee ugu soo horeysa ee doorashada ka soo qayb gali doona madaxweynaha haddii ay doortaan qof aan farmaajo ahayn dib u dhac iyo musuqmaasuq iyo sidii hore madaxweynayaashii loogu arkay oo ay ka bilaaban doonto waxa ugu yar sida saaxiibkay sheegay mushaarka ciidamada la weyn doona marka waxa la weyn doonaa qabki Soomaaliya oo 9 bilood hadda ugu dambeeyay baabay waxa la weyn doonaa deyn cafintii lacagtii Soomaaliya hadda qorsheynaa in la sameeyo sicir bararkii oo la yareeyay musuqmaasuqii oo la yareeyay dhismihii ciidamada rajadii Soomaaliyeed ganacsigii horumarkii wixii oo dhan dib u dhici doona oo muddo hadda 9 sanad ku dhow nasiib darro intii uu ra'iisul wasaaraha cusubada jooga la doortay dib u dhacay rajadii Soomaaliyeed iyo shacabkii inta baabaaday taasa marka waxay keenaysaa marka haddii farmaajo la doorto in dib loo soo celiyo waxaas oo dhan waxay keenaysaa rajo iyo in la abuuro in horumar la gaaro taas marka ma aha taageero iyo taageer la'aan ee waxa weeye waxaan kala dooranaynaa musharaxiinta miiska noo saarnaa deertaan maadaama dad shacab aysan wax dooranaynin waxa wax dooranaya 329 xildhibaan sida aan sheegnay habraac qaldana la sameeyay si marka waxaan rabaa inaan sababeeyo sababta hadalkaas u leeyahay farmaajo in la 329 la doortay nin walba wuxuu soo saaray ninkiis xildhibaan oo soo saartay dadkii marka xildhibaanadii la soo saartay iyo liiskii la soo saartay hadalka marka qurux badan saaxiibkii uu sheegay maxamed oo Soomaalinimadii iyo dadka shacabka wax dooranaya beesha caalamka waxa dadka mucaaradka meesha loogu soo daray waa legitimacy inay hesho dawladda soo socota madaxweynaha soo socota laakiin already nin walba tookadiisu cayaaray nin walba wuxuu cayaaray shaxdiisii waa la soo isku yimid garoonka 329 kaas la qaatay inaan naif noqon lama rabo siyaasad si fiican loo fahmo dadkan waxa la rabaa xoggaal waay in wax loo sheego sida runta ma la rabo inaan maaragtay BBC-da ka hadleen oo kale in loo hadlo marka laakiin hal su'aalan ku weydiinaya intaanan markii u gudbin markii aan u gudbin waxaad tiri xildhibaanadu waxay noqonayaan kuwa hadday u codayaan mar kale Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ka shaqeeya danaha dalka kaba soo qaad wuxuu waa doorasho waa nasiib musharaxiinta kale kulli waxa laga yaabaa inaadan wada taageersanin waa laga yaabaa qaarkood siyaasadooda inaad taageersan tahay ma jira musharax kale oo is leedahay
haddii maxamed cabdullaahi farmaajo aysan u codeen sida adigu aad aaminsan tahay waxaa jira musharax kale ama laba musharax oo kale aad isleedahay haddii iyagu soo baxaan weli waddadii wanaagga iyo horumarka sida adigu sheegtaa lagu soconaya ma jiraan maya ma jiro musharax kale waxaa jira hal fursad ay haysata Soomaaliyeed maanta joogta fursadaasna waa inay doortaan madaxweyne farmaajo si aan uga baxno inaan musuqmaasuq helno iyo inaan ciidamadii ay baaba'aan intaas la soo dhisayay iyo in qabyaalad waddanka loo qaybiyo goboleedyadii iyo shacabka loo kiciyo marka fursadda keliya haystaan dadkaas waxaa waaye oo xildhibaanada ah sidaan kuu sheegana waxaani cabirkii iyo qofkii iyo doorasha lagu yimi oo qofka lasoo xulayo xulash lagu yimi laguma imaanin doorasho qofka uu fikirkiisa bedelayo midda kale waxaa la rabaa in la ogaado musharaxiintan liskuma qancinayo program siyaasadeed tusaale hadda nin ka musharax kale aniga hadda haddaa tira dooro yaa ku qancinayo ma raadinayo ninka igu qanciya programkiisa waxaa raadinaya ninka xildhibaano soo saarta ugu badan mogta ilaan waa saas maahno sababtoo ah ma jiro program iyo musharax iyo hadda waxa ka sheekeynaya soomaalinimada iyo wax laga hadlayo ma jiro nin waxaa ognahay wuxuu hayo oo wuxuu soo qabtay nin kale waxaa ognahay wixii shalay uu soo qabtay oo kale xasan sheekh shariif qayre kulli waa ognahay waxa kala dooranayna marka waxaa waa yaa xildhibaano haysto ugu badan yaa u malaynaya laakiin yaa ugu program fiican oo inta soo istaaga dhahayo shabaab hal maalin aan ku dilaa intaas samayna qof walba program uu soo saaraa ma jiro hadduu sheegan caawa qof ka dhegaysanaa male sababtoo waa soo baranay waxa wax lagu kala dooranaa waa xildhibaanimo waayahay maxamed ansiya maxamed wuxuu leeyahay xuseen cid aan ahayn farmaajo maahana cid kale haddii loo codayo waddadii horumarka ayaa dib looga weecanaya horta walaalkii xuseen wuu mahadsan yahay laakiin waxaan rabaa inaan fahansiiyo walaalkii xuseen ma fahansiinaya inaan kala doodo feeri soomaali waad u gafaysaa walaal xuseenow markaad leedahay ruux kale oo farmaajo ahayn macnaha soomaaliya waa dad dhintay oo mandhali saamiya markaad leedahay nin kale wuu kuweydiiyo su-aal buu kuweydiiyey qof kale macnaha farmaajo oo keliya dhaqankaas ama waddankani uu burburayaa weeyaan ama farmaajo baa joogaya wax kale ma jiro weeyaan dhaqankaas waxa weeyaan waa dhaqanka qadaafi ee ku salaysnaa 40 sano waddanka inuu xukumo waa dhaqankii mubaarak waa dhaqankii saalax oo ah maa uriikum ilaa maa araa anigu waxaan arka aniga unbaa saxsan inta kalena waa baadi weeyaan anigu kaas marka ma doonayno kaas ma rabno waxaan rabnaa in loo codeeyo oo la doorto qof wada hadal dhaba la geli kara walaalahan Somaliland oo isagoo sharaf leh oo haybad leh oo Abiy Ahmed uusan kaxaynaynin oo diyaaraddu Arsaba ka soo saaro uusan Nairobi ugu geeynin Abiy ugu geynaynin qof sharaf leh oo maxaan ku dhahay dadka qancin kara shacabka Soomaaliyeed la hadli kara Somaliland iyo musabixi la hadli kara wada hadal la geli kara ismaamul goboleedyada hadal ku qancin kara dood ku qancin kara wax u ogolaan kara tanaasuli kara qofkaasaan rabnaa anagu oo waddanka dastuur loo sameeyo waddanka dastuurkiisa maxkamaddii la hagaajiyo axsaabtii la furo qof yacni waxa uu sheegahayo shacabkan u furan baan doonaya inaan doorano kow waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo baxday maxaan ku dhahay ku soo baxday ama doorasho ama xulash ku soo baxday waxaan aaminsannahay oo qaar fara badan aan la xidhiidhnay oo hadda aan u baahnayn meesha inaan ka sheego inay sugi la yihiin maalinka ay doorashadu dhacayso halkaas bay sugi la yihiin waxay u heelin doonaan badbaado qaran waxay u heelin doonaan wax la yidhaahdo isbeddelka dalkay u heelin doonaan waxaan rabnaa dalkan dal la wada leeyahay oo nabad lagu wada noolaado oo xamar ay shabaab laga xoreeyo oo madaxweynuhu uu ku tegi karo afgooye iyo jawhar uu baabuur ku tegi karo baan doonaya anaga ma doonayna madaxweyne inaan soo celinno qof kasta xidhahaya qof kasta dilahaya qof kasta handadahaya qof inay shabaab magaaladii xamar oo shariif uu ka saaray shabaab inay maanta dekedii canshuur inay ka qaadaan oo suuqii bakaaraha ay ka qaadaan waxaan ku soo xasan doonaa maxamed cabdullaahi farmaajo ku soo xasan doonaa marka walaalkay waxaan leeyahay ha ka sii raadsada haddaba meeshuu degi lahaa dhalinyaradana soo baxday waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isbeddel u ooman weeyaan oo raba mustaqbal ilmahooda u raba weeyaan dalka mustaqbal u raba weeyaan nabad dalka u raba weeyaan dimuqraadiyad raba weeyaan waxayna dooranayaan dad caqli la weeyaan meesha ummadda Soomaaliyeed u badan tahay bay aadayaan hadii la waayahay maxamed laakiin halkaas aan kaa galo adoo raalli aan kaa dhex gala hadalka waan ognahay xuseen fikirkiisa inay cad yahay laakiin dhankaagaan rabaa inaan caddeeyo haddii ay noqoto in maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku soo baxo doorashada oo uu cod ka helo aduu shakhsiyan ma aqbalaysaa doorasho xalaal haddii dhacdo oo sanduuqa bannaanka la dhigo
oo aan salaad la aadin salaad hadda waxay lahaayeen qaarkood salaad baa inta la aado nalka la daminaya moogtahay markaasaan boobaynaa qaar baa igu dhahay oo de rag waaweyn oo nabad iyo nolol ah waxay dhawaan boobaynaa ciidamaa noo imanaya ertaya ka imanaya waxaasay akrinayeen doorasho xalaal ah oo 329 xildhibaan ee Soomaaliyeed hadday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u codayaan xawan yeelay waan aqbalay anigu absolute waaya labadiinaba su'aal ka baxsan taasaan jecelahay qaybo ugu dambeeyana waa ku sii dhowaha barnaamijka xildhibaanada la doortay ee hadda baarlamaanka 11aad in badan oo kamid ah waxay ku eedeysan yihiin xildhibaanadii baarlamaanka 10aad kii 9aadna qaarkood ay ku eedeysnaayeen dambiyadaas oo ah kuwa mararka qaar qaranka magaciisa lagu sameeyay ama dowladnimada magaceeda lagu isticmaalay mararka qaar shakhsiyan ay dhibaato shacab ama ay dadkii iyo dalkii ugu geysteen ah annagu ma nihin maxkamad laakiin eedeemihii waa jiraan eedeymahaasna waxay ka dhan yihiin ama ay maantay laga sheegay inay sameeyeen ama fuliyeen qaar ka mid ah xildhibaanada maanta la doortay maxaa laga yeeli karaa dadka noocaas Xuseen waxaa la rabaa in la caddeeyo tusaale haddii dadka dhan maskaxda waxay ku hayaan kiiskii Grant Tahliil oo kale maxkamadda ay tageen familigeeda ra'iisul wasaaraha hogaamiyey maxkamaddii ay tageen waxay soo qorteen xeer ilaaliye waraaqad u qoray in oo dacwo lagu soo oogi doono kiisay furteen bil kadib xeer ilaaliyihii wuxuu yimid TV-ga qaranka kiiskii waa xiray wuxuuna sheegay dadkaas inay dambi lahayn wax shaqaan ay ku lahayn ayna la shaqaynayaan si kiiskaas loo sii wado baaritaankiisa marka dowladnimada marka haddii la rabo in wax laga fahmo meeshaas waxaa ku cad in la kalingareeyey ama aysan jirin qof ama xildhibaan la eedeyn karo sababtoo ah eedeysana waxaa noqon kartaa intii maxkamad ee kugu soo oogto dacwad haddaysan maxkamad dacwo kugu soo oodin eedeysana ma tiid sharciyada waddamada aad joogtaan waa ogtiid taas waa midda labaad eedeynta siyaasadda eedeynta siyaasaddana waa caadi haddii asaga uusan noqonin qofka wax eedeynaya qofka kala noqonayo ilaa qof aa wax isku haysataan labada qof aa guulaysanaya mogta marka haddii siyaasad eedeedii iyo eedii sharciga ahayd ee qofkii wax dilay qofkii wax sameeyey in laisku dhex qalsla maaha marka haddii qof maxkamad la rabay in laga qaado waraaqad ha laga soo qaado sababta processka xildhibaanka processkiisa sababta looga bilaabo CID-da waxay tahay inaan hadhow lagu qabsanin qofka waa eedeysanay sababtoo CID-da maamul goboleedka oo waraaqad caddayna ka soo qaadatay CID-da gobolka Banaadir ayaa qofka waxay siinaysaa inuusan dembi lahayn haddaa marka waraaqadaas wadato CID-da ma la dhihi kartid eedeysanay marka weligaa qofkaas taas meeshay ka baxday laakiin wuxuu eedeysana u yahay qoyskii ama dadkii ka tirsanayay dambiga ama ka tirsanayay inuu wax dhibaato ugu geysto magac dowladeed ama magac shakhsi ahaan hadba markii waxay ku xiran tahay eedu nooc ay gaarsiisan tahay laakiin hadda tusaale ahaan warbaahinta oo kale markay warbaahintu tabinayso wararkaas oo kale sida sharciga caalamka u dhiganba haddii Maxamed Maki uu maanta shir jaraa'id qabto shirka jaraa'idna uu leeyahay Xuseen oo hebel ah ayaa magac dowladeed maanta igu dhaawacay ama dhibaato igu geystay wariyuhu markuu warbixinta diray waxa leeyahay shir jaraa'id uu qabta Maxamed Maki waxa uu ku eedeeyay in Xuseen uu dhibaato saas u geystay weli marka bulshadii waxay ku arkaan adoo xildhibaana in eedii ay taaganta ama qoyska ha ka timaado ama qaraabaha ka timaado ama dad shisheeye dad sokeeyaba ama magac dowladeed waxaa rabti ku samee dadka noocaas oo kala maxaa laga yeeli karaa in badan oo kamid ah waxa lagu xamanayaa inay baarlamaanka u galayaan si xasaanad u helaan oo isku sii difaacaan oo 4 sano soo socota aan lala hadlin sharcigu muxuu ka qabaa isdhigi kartaa maxaad is leedahay dadka iyagu eedda waa dad Soomaaliyeed waa dad sidaadoo kala waa dad maantay xaqdarro iyo dhibaato in loo geystay aaminsan maxaa laga qabanaya arrinta markay saas oo kala tahay Xuseen waa fiican tahay waxaa la rabaa in laga qabto ra'iisul wasaaraha oo loo dhiibay kiiska oo yiri shaqo joojinaan ku sameeyey Fahad Yaasiin oo yiri ciddii aan u xiray oo waxaas oo dhan sameeyey waxaa la rabaa inuu hor istaago inuu xeer ilaaliyaha yimaado TV-ga qaranka inuu waraaqada CID-da la siiyo xildhibaankaas saasaa laga rabaa haddii kiiska uu jiro oo caddayn ay jirto waxaa laga rabaa inuu qoyska qanciyo laakiin haddii uu qoyskii uu been u sheego uu yidhaahdo aniga idiin qabanayo wax macnaheedu waxa waaye anuu ra'iisul wasaare waxaan ogahay inaad dembiga linka galay sababtoo ah markii ay u tagaan marka koowaad hadduu yidhaahdo wax dembiga linkama gelin anigoo ra'iisul wasaare ayaa og meeshaasuu kiis ku dhammaan lahaa laakiin asaga intuu qaabilo wuxuu yidhaahday anigaa og kiiskaas waa linka galay soo marka
iga warsuga markii dambana waa ku soo noqday wuxuu yiri waxba ma oga marka dadkii family-ga ma qaadan karaan way og yihiin dadkii wax ka sameeyay ama ma oga dadkii wax ka sameeyay marka hore la raayo in wax loo sheego marka wax loo sheegaa looguma sheego si personaliya marka xafiis fadhido waxa wax loo sheegaa si professional oo qodobo iyo erayo iyo waxa isticmaalayso marka in loo isticmaalo erayo oo siyaasad ahaan lagu dabacsanayo marka dambana looga faa'iideysto oo la yiraahdo waa eedeysane macquul ma haddii qof uu shir jiraayid qabto uu sheego inuu qofkaas eedeysana haddaan yiraahdo aniga maxamed saxaafa waa eedeysan idaacadaha waxay rabaan sheegaan dibala idaacadaha magaalada muqdisho by the way 90% waxa waaye afhayeen al-shabaab aaminsanna marka qof maanta dhan qarax iyo waxa ka sheekeena wax kale kama sheekeeyo horumarka ma sheekeeya marka muhiima waxa dawladda qofka iyo systemka dawladda sidoo u maraayo oo ah in waraaqada CID-da iyo maxkamadda inta u dhaxaysa inuu qofka clean ka yahay iyo inuusan ka ahayn taas la dhigi karaa eedeysane ama waxa lama dhigi karo eedeysane marka baarlamaanada marka maxaa laga filan karaa waxa laga filan karaa oo waxaano ciidana oo ku dhex jira baarlamaanka iyo waxaano dad oo ku dhex jira baarlamaanka waxay noqonayaan baarlamaan oo dadka ciidanka marka fiirido Fahad Yaasiin iyo dadka Saadaq John iyo waa dad ayaga dhan 4 sano ciidana ka hor siyaasiyiin iska ahay marka waxa aaminsanaa inay u laabteen kaliya background-koodii hore oo siyaasadda marka hore ku soo galeen askarnimo laakiin marka dambe u noqon doonaan siyaasiyiin oo siyaasadda ay ka shaqeyn doonaan oo sida odawaa iyo mahad salaad iyo kale ay noqon doonaan dad iska siyaasiyiin oo haddii codkar iyo haddii yihiin Nairobi iska fadhiisto oo iska hadlo laakiin waxba kama bedeli karaan haddii farmaajo la doorto ama la dooranin laakiin baarlamaan ahaan weyga u shaqeeyo iyo xisaabtanka dowladnimada oo rabin inay la xisaabtamaan xukuumadda inay la xisaabtamaan ra'iisul wasaaraha waxay ka bedeli karaan oo khibrada ama ay ku soo kordhi karaan malaha waxay ka mid noqonayaan odayaashii 20 sano fadhiyo oo kale waan gartay markay timaado dadka eedeysanayaasha Xuseen asna fikirkiisu u sharaxay adi sidee u aragtaa xildhibaanada waliba yahu horta wixii waa nasiib darrada u weyn ee nagu dhacday waxa weeyaan 4-5 sano waxa weeyaan inaan la dhisin oo aan la diyaarin dalkan hay'adihii qadaha hay'adihii maxkamadaha inaan si fiican u habaysnayn anigu waxaan doonaynay in lagu mashquulo 4 sano ama 5 sano in maxkamadihii la dhiso waddanka si fiican loo habeeyo dastuurkii la habeeyo waxaasaan doonaynay waa weyn baa yaan filaynay sida runta ma dhicin marka mu'asasooyinka inoo jira waa mu'asasooyin runtii aan madax banaanayn oo iska tabardaran wey sida runta ah oo u baahan waqti dheer bay qaadanaysaa inay hawsha si cadaalada loo galo sida runta ah waxaan aaminsanahay in la kala saaro kiiska siyaasadda iyo kiiska maxaan ku dhahay cadaaladda in la kala saaraan aaminsanahay oo laba wax oo markii aan runtaan ka hadlayno weeyaan in wixii ku saabsan maxkamad iyo sharci iyo cadaalad in la siyaasadayo ma aaminsan anigu waxaan aaminsanahay marka qoysaskii dhibaatada soo gaadhay anigu aad uga xun sida runta ah haddii ay jiraan dad ay tuhunsan yihiin oo tuhunkaasi uu ballaaran yahay waxaa muhiim ah in ay la tiigsadaan sharciga oo ay maxaan ku dhahay dacwad ay furaan ay daba socdaan oo aysan ka daalin sidaas baan runtii aan aaminsanahay waxaan aaminsanahay mar kastaba siyaasadda saameyn bay ku yeelanaysaa amniga haddana maadaama waddanka iska tabardaran yahay oo la madax bannaanayn waxaan isleeyahay marka haddii uu ku soo baxo xilka qof aan ahayn madaxweyne farmaajo waa dhici kartaa marka in kiiskii dib loo dardargeliyo kiisaska qaarkood in dib loo dardargeliyo maxaan ku dhahay bannaankan wax badan baaritaan dhabahoo hufan in lagu sameeyo way dhici kartaa hadduu madaxweyne soo baxo farmaajo kusoo laabta xafiiskana oo aana filayninba ayadana waxaan u malaynayaa in kiiskaasi lasii duugi doono oo maxaan ku dhahay oo aan sii aadayno askarinimo dagaal iyo xoog iyo mugdi inaan sii aadaynaan aaminsana sida runta ah waayahay madaxuu luxayaa xuseen maxaa madaxa la luxday bilcaks haddii la rabo in kiisaska noocaasa ee siyaasiyadda ku salaysan in wax laga qabto waxaa la rabaa qofka raba familiga ama qofka haddii ay wax kaa galaan sidaa uga dacwoonaysid adigoo xaaladda Soomaaliya ku waxaynaya qofka aad ka dacwoonaysid iyo cidda u dacwoonaysid iyo qofka ku dacwoonaya waxa uu yahay adigoo og waxa la rabaa waxa aad sheegaysid inaad qabatid marka cidda u dacwoonaysid hadday maanta gacmaha kaa qabato cidda u dacwoonaysid in berita ay gacmaha kuu saarto baraf adiga waay mugti sidaa rabto inaad u xisaabtanto marka annaga judge ahaan dhibaatadii gaartay cidda waxaa ka sii daran humiliationka lagu samaynayo oo ah in mar walba loo wado oo maalin walba meel inta la geeyo laga qaylisiinayo oo maalin walba dhibaatadeedii iyo ooyinteedii la arkaayo familada noocaasa oo tiro badan runtii oo dowladnimada lagu dhibaateeyey
ayadoo qofkii loo tilmaami karo wada yar oo qofku wax kusoo heli karo iyo tala yar ayaa qofkii loo isticmaalayaa image-kiisii sawirkiisii in asagana la bahdilo oo dhibaato lagu sameeyo ayadoo la rabo in qof kale lagu dilo marka waa nasiib darro runtii waa sida shabaabka oo kale waxay rabaan inay dilaan qof siyaasiya oo dhibaato ama ay geystaan markaas wiil yar oo dhalinyaro ay qarax inta ku xiraan ay dilaan ayaga marka dhibaatada wiilkan u geysanayaan iyo intaasoo qof waxay u geysanayaan waxaa ka weyn oo ka dhibaato wadan message-ka qarax inuu dhaco marka adiga waxaa ku ekaanaysaa markaa fayrinaysa dhibaatada shabaab qaraxii dhacay laakiin inta process ee qofkii soo dilay kii kale oo meel kale kusoo dileen waxaasoo dhan ma xisaabsan waxaa laga yaabaa hal qof inay dilaan oo mas-uul oo caana oo laga xumaado laakiin waxaa laga yaabaa si qaraxaas loo sameeyo in 5 qof oo askari iyo dad iyo ku jiraan shacab in loo soo dilaa laga yaabo marka waxna gaarsiiyey ka mid tahay in siyaasadda laga fiiriyo mar walba hebelaa sidaas yiri qofkiina la wado maalin walba meel la geeyo ayadoo hadafka laga leeyahay keliya ay siyaasad tahay nasiib darro waad mahadsantahay maxamed waxaan u malaynayaa waa iska gabagaba barnaamijku waxaan kusoo isleeyahay inaan meeshan ka sheego mustaqbal fiican iyo rajo fiican baan runtii soomaaliya ka qabnaa haddii la yidhaahdo qofka soomaaliga ah inuusan ka u shaqaynin hebel wax la yidhaahdo hebel qiimo ma laha waxa qiimaha la waxa weeyaan waa dalka soomaaliyeed waa dadka soomaaliyeed waa shacabka soomaaliyeed weeyaan waxaa la rabaa ruuxa isagoo keliga intuu fiiriyo dhacdooyinka si miisaaman u waxeeyo dalku doorashu galayaa aad miisaantid wixii ina soo maray waxa inoo yaalla adiga iyo ilaahay subxaanahu codkaadu codkan ammaano weeyaan hadda ka horba waxaa dhacday gabadha Benazir Bhutto oo u ahayd waddanka Pakistan ka ahayd ra'iisul wasaare ka ahayd waa la dilay waxaa dhacday nin baa la tartamahayay kale nimanka tabliiqa la yiraahdo oo ugu badan waddanka Pakistan markii la yiraahdo jamaaca koox badan aha waxa codkoodii meena siinin qof kale soo baxay marka macnaheedu waxa weeyaan haddii adiga aad codayn weydid oo codkaaga si fiican u isticmaali weydid dhibka ka yimaada ee qofkaas adiga aad dooratay uu waddanka ku sameeyo qayb ayaad ka noqonaysaa anta tataxamal mas'uuliyya amaam Allah adiga mas'uul ka noqonaya waxa sameysay marka waa inaad toobad keentid way marka waxaan leenahay marka dalkeennu dal dowladnimadiisa la dhisahayo la isla ogol yahay la isbaryahayo walaalo la leeyahay sharci aan ku wada soconayno dimuqraadiyad aan ku wada soconayno ayaan u soconnaa dib inaan u laabana dooni mayno waxaan aaminsanahay madaxweynaha iman doona haddii la yidhaahdo inuu 4 sano kaga dhammaan doontaba wixii 5 sano la haleeyay si u soo nadiifin lahaa u soo hagaajin u soo qurxin lahaa baaba kaga dhammaanaysaba intaasaa dhib noogu filan Soomaaliya waxay la tahay gacmaha intii la isqabsado dalkan in hore loo socdaan isla insha Allah taala oo isbedelka iyo dimuqraadiyadda iyo qaanuunka sharciga in loo codeeyo haddii la yiraahdo aad u mahadsantahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii iyo gonaanadkii waxaan jeclahay Xuseen inaan siiyo talada iyo tusaalada inta fikirka ugu dambaysa barnaamijka Xuseen waa mahadsantahay waa soo koobayaa danta Soomaaliya waxay ku jirtaa in la taageero in ciidamada la dhiso in waddanka qabkiisa la soo celiyo in musuqmaasuqa la dagaalamo in dalaaleyda waddanka ka ganacsanaya waddanka siyaasaddiisa arrimaha dibadda arrimaha gudaha intaba laga qabto si intaas looga qabtana waa in la doortaa madaxweyne aan rabin lacag man iyo siyaasad intaba waana madaxweyne Farmaajo waana ku rajo qabnaa 100% inuu soo noqon doono kaliya waxaan isweydiinaynaa waqtiga oo la dheereysanayo in la soo celiyo xildhibaanadana la fasaxo si doorashada loogu qabto bil gudaheed si ciidda aan ugu dabaaldego madaxweyne Farmaajo marka aad iyo aad u mahadsantihiin runaanto aan kaga mahadcelinayaa Maxamed Maki oo si toos ah barnaamijka uga qayb qaadanaya isagoo jooga magaalada Stockholm ee xarunta waddanka Sweden iyo Xuseen Barrio oo isaguna qadka si toos ugu jira isagoo jooga magaalada Paris xarunta waddanka Faransiiska labaduba barnaamijkeena caawa nagala qayb qaadanayay doorasho mise dib u noqosho barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale mustaqbalka hadii beedmo aan in la wadaagi doono waa anigu Maxamed Saciid iyo guud ahaan bahda barnaamijka oo kaga mahadcelinaya waqtigiina waxaad nagala socoteen bogga barnaamijka maalmaha dunida iyo waliba bogga BSTV ee British Somali TV labadaba barnaamijka si toos uga daawanaysiin fariimihiina aragtidina lama soo koobi karo meel baad caalamka joogtiin oo kaga mahadcelinaynaa balse intaas waxaan nooga idil qaybta barnaamijkeenan oo aanu mahadcelinaya martida iyo daawadayaasha waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo